ajiibidda uu madaxweynuhu inaga ajiibay inuu bulshadiisa hor imaado oo uu la wadaago dareenkooda oo uu fursad u siiyey inay su'aalaha ay tabayaan weydiiyaan anaa ka codsaday madaxweynaha in barnaamijka marti noogu noqdo madaxweynaha waan uga mahad celinayaa fahamkiisa iyo aragtidiisa wanaagsan ee la xidhiidha inuu bulshadiisa hor imaado oo aan filaya inay tahay markii ugu horeysay ee deegaanka madaxweynaha dadweynaha ama shacabku ay si toos ah su'aalo u weydiiyaan tan iyo intii xilku qabtay iyadoo aanay dhici jirin intii hore sida aan xogta ku hayo deegaanka in dadka shacabka ay su'aalo toos oo furan la weydiiyo madaxda haddaba waxa aan jeclahay in aad ka faa'iideysataan fursadda uu madaxweynuhu idin siiyey ee ah inuu idin hor imaado oo noqonaysa inaad matashaan dadka shacabka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida oo ah dhammaantood mid jooga iyo mid magaalo jooga oo nolosha ay tabayaan aad weydiisaan marka madaxweynuhu jawaabaha halkan buu idinku hayaa nuxurkuna waxa weeyaan su'aal mar labaad ha ku celinin su'aasha aad mar la weydiiyo qofku iyo mar labaad qaadanin su'aashiyo si kale u taala oo isla su'aashiyo noqonayso iyo qofku weydiinin qofku su'aalo tiro badan ma laha su'aal buu qofku leeyahay su'aashu inuu ka faa'iideysto intaasi ayaynu ku koobaynaa madaxweynahana waxaan jecelahay haddii Allah uu diiraado inuu jawaabaha inoo koobo maadaama ay dadkuna kooban yihiin oo nuxurka aynu taabano su'aashaha iyo ma oranaysaana micno badan ma sameynayso sabab raaci sababee protocolkana waynu ilaalin doonaa si cadaaladna waynu qaybsan doonaa idinkaanay bulshadu idinka sugaysaa inaad baahiyii deegaanka madaxweynaha weydiisaan madaxweynaha waxaan ka codsan doonaa haddii in kooban 3 daqiiqo uu brief inaga siin karo mushaqada imika socota iyo xukuumaddiisa faham guud oo kooban ilaa 3 daqiiqo 5 daqiiqo hadduu madaxweynuhu awoodo haddii kale su'aalaha intoos u gala madaxweyne adigoo maanta waa codsi haddii awoodo way su'aalaha way toos baynu su'aalaha u geli doonaa uu mahadsan madaxweynuhu waxaynu ka bilaabi doonaa yamiin midigteenu ka bilaabi way qofka koonaha siin doonaa qofku magaciisa iyo su'aasha uun araar ma jirto commentna ma jiro bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaantiin aad baan idin salaamayaa su'aashayda haddaan galo hal su'aal baan madaxweynaha weydiinayaa su'aashaasi waxa weeyaan shaqo abuurka dhalinyarada madaxweynuhu muddadii uu joogay ama muddadii uu isbedelku jiray inta badan waxaa laga shanqariyaa in shaqo abuur la sameeyo dhalinyarta shaqo abuur loo sameeyey madaxweynaha su'aashan weydiinaya waxay tahay ma jirtaa يعني شخص لديه كرو قف الشقاور بالو سميه أو تصالح يوجه دليرته أما قف يعني لو ضاين كرو لديه كرو شقاور كل سمينه يقف كاس أما سكاشتا سكفة ديستي أو ما أنت هرمود على دليرته اللين كحيجة حق هركسي مدحوينها waxaan weydiinayaa hal su'aashaas waxa weeyaan tan iyo muddadii 3 sano geed socodka isbedelka deegaanka oo ka hirgalay waa maxay waxyaalaha aad isleedahay isbedel booqda laga helay ilaa iyo imika la gaaray sidoo kale lacala haddii marka doorashada ka bacdi xilka haddii fursad mar labaad lagu siiyo waa maxay waxyaalaha aad isleedahay deegaankood ka soo kordhinaysa isla markaana DDS nooceeyaad inaad ista doonaysaa mustaqbalka waad mahadsantahay laynka ku xiga dhexda ka sii waxaan weydiin lahaa madaxweynaha hal su'aal su'aashaas waxa weeye miisaanka maamulka hadda jira ma waxa weeye xukuumaddii hore aan isku miisaannaa mise deegaanada kale inala qayrka ah horumarka ay gaadheen baa inoo miisaan ah waad mahadsantihiin oo mahadsanta laynkan kale xaggan hore ka sii waan ku soo noqon fursadaha waynu ka faa'iideysanayna hadina soo fadhiisiga uu hor yimiday bulshada si uu su'aalaha uga jawaabo waxa weydiinayaa madaxweynaha doodaha ugu badan ee hadda xilligan doorashada ka socda heer federaal iyo heer deegaanba waa afkaaraha yani lagu galayo doorashada waxa kamida ethnic federalism-ka oo kale axsaabta qaar waxay leeyihiin inaan baabi'ino ayaan rabnaa oo geographic lagu saleeyo Ethiopia madaxweynaha laftiisu hadda ka hor uu ka shanqariyay marka sidoo kale dastuurka in la bedelo marka xukuumadda ama BB labadaba maadaama madaxweynuhu matalayo
maxay ka aaminsan tahay ma ethnic federalism bay aaminsan tahay ma mustaqbalka maxaan ku dhahaa in la baabi'iyo oo geographic lagu bedelo dastuurka laftiisa adigoo mahadsan si ay dadka Soomaaliyeed dhageysanayaan inoo fahmaan in af Soomaali aad ku hadashno ay fiican tahay haddii aan xogaa isku dayo inaan dadka fahansiiyana waxaad u jeedaa in la baabi'iyo deegaanada ku salaysan qabiilka oo loo bedelo deegaan guud oo dadku wada degaan in ka la bedelaad leedahay oo dastuurkana dib loo bedelo exactly sidoo kale madaxweyne ku-xigeenku maalin dhaweyd TV wuxuu macnaha ka sheegay in ay uu taageersan yahay in dastuurka la bedelo marka madaxweynaha waxaan weydiinayaa ma la qabtaa arrintaas maxaad se isleedahay qodobadee baad isleedahay in laga bedelo ta kale gobolka City dhibaato badan baa ka taagan xilligan doorashada waraaqa la isku qoray baa jira maxaan ku dhahaa xafiiska doorashooyinka iyo heer deegaan arrintaasi jawaab baa laga bixiyay oo madaxweynuhu ku mahadsan yahay iyaguna jawaab bay soo bixiyeen halkay arrintaasi ku dambeysay ma jawaabtoodii ay soo dhiibeen ayaad ku qanacsan tihiin oo saasaad kaga aamusteen mise arrimo kala socda arrintaas inuu iyadana sidoo kale bulshada macnaha la wadaago arrinta gobolka City sustainability mustaqbalka maxaa halkay ku dambeynaysaa yacni goormay arrintaasi dhammaanaysaa oo dilka iyo maxaan ku dhahaa maalin kasta dadka dhimanaya iyo issue ka taagan gobolkaasi goormaad isleedahay uu dhammaanayaa aad baad mahadsantahay waa mahadsantihiin magacaygu waa Ayaan Axmed uu ku maadsay madaxweynuhu inuu waqti noo huray uu rabo inaan su'aalo ku weydiino mudana madaxweyne waxaan weydiin lahaa in deegaankeena isbedelku ka hirgelinta xukuumaddu timid waa la wada qirsan yahay cadaaladdu mayna boqolkiiba boqol muuna isbedel ka hirgelin dhanka cadaaladda oo kale sida inantii reeda Amiira ilaa imika meelay ku wardamaysay waxay dawladdu ka tiriday Amiireer wax loo qabtay ma aragno marka Amiireer maxay ku sugan tahay hal xafiis xataa oo heer deegaan in xafiiska arrimaha haweenka in xafiiska cadaaladda hal xafiis oo iga furan tahay fayl ma jiro Amiireer maxaa laga damacsan yahay xageesa ku dambeysay arinteedii magacayga waxaa la yidhaha Israa anuu hadalka sii badanaya su-aasha guda gelaya waxaan rabaa inaan weydiiyo madaxweynaha madaxweyne waxaa jira dad barakacyaal ah oo xukuumaddii kaa horeysay markay soo qaxeen ama badankoodna iyagoo hanti fara badan lahaa ama midba midka kale ka maalqabeysnaa la soo barakiciyay saas sheegtana mar walba waxaa jirta kelmad ay xasuusiso dawlad deegaanka dadka ku dhaqan oo ah kelmad wada noolaansho ama inay kilada Itoobiya wada noolaansho naga dhaxeeyo isaad ogsoontahay waxaa daliil u ah dadkan barakacayaasha soo barakacay ee ku baylahsan Qolaji dawladii horena intay soo rartay soo dejisay Qolaji marka mudane madaxweyne maxaa kaaga qorshaysan inaad u qabato dadkan tabaalaysan ee ku gaajeysan Qolaji way qabandiya saliid la siiyo uma baahna marka qorshaha kaaga yaala muxuu yahay dadkan tabaalaysan ee Qolaji degan intaasina kusoo koobi line iska dhammayn raacnay si todobada su'aalood madaxweynuhu uga jawaabo هاي صباح وناكسن بسم الله الرحمن الرحيم هذه أدب ما سنتهين سدا أدوسو تشيدسين سؤالي هنا أسلوبيسن وحنكون رينا يا سؤاشي وهريسة شقابوركا طبعا أنا سواكو كوبي يا سيدي لقوا سيد تذكر هذا فرصة ده هلان وليك عليه أو هلان مركا comprehensive من نقول كرو أرين والبا جودي هي مجد كرو لكن أنتي أنسلية هاي وأنفع عيسى سؤاشاس ayaa oranaya arahan taasaan rabaa inaan sheego arinta shaqo abuurka dhalinyarada ma jira qof shaqo abuur loo sameeyay oo hormood ah waa dhalinyarada taa waxaan kaga jawaabayaa kow shaqo abuurku dhowr qaybood weeyaan waa ka formal sectionka ee dawladda shaqaalaheeda la shaqaaleeyo in ka badan 35,000 oo dhalinyaro ah ayaa lagu daray formal bureaucracy-ga ama shaqada dawladda ee caadiga shaqaalaha dawladda caadiga maadaama structure-kii shaqaalaha ee deegaankeenu uu koobnaa in ka badan 35,000 oo qof oo dhalinyaro ah ayaa shaqaalowday shaqo abuurka lacagaha la isa siiyo hadduu yahay su-aashu waxay u socoto way jiraan oo TV-yada gabdho fara badan iyo wiilal fara badan oo shaqo abuur loo sameeyay ka hadlaya waan ka daawaday anu oo leh xaaladdu sidaas ahaan jirtay haddana sidaas aan marka way jiraan shaqo abuur kale oo microfinance-yada iyo laga qaatay iyo bangiyada iyo
iyaguna way jiraan oo gaar marka uu ballaaran yahay laakiin waxaan u qaatay su-aashaadu xafiiska shaqo abuurkeeda la xidhiidho inta haddaan sheego waxaan raacin lahaa shaqo abuurka dhaliil ma ka jirta haa shalay waxaan u fadhinay shir aan kaga hadlaynay shaqo abuurka dhaliisha ka jirta waxa weeye kow formatka etoobiyada kore laga isticmaalay ee lacag yar yar oo kooban oo dad la siisiya dhalinyaro loo qaybiya oo mekanism lagu soo celiyana oo fara badan ayna xaggeena ka jirin ayaa la raacaa nidaamkaas la raacayaa wuxuu keenaa in wax weyn qofku aynu u kordhin shalay warbixinta la siinayay haweenka caanaha iyo waxaa keenay yar yar ee kotakuta ku la siiyay ayaa lacagta soo celiyaa leeyahay kuwa dhalinyarada la siiyay lama soo celiyaan boqolkiiba 90 waxay noqotaa lacagtaa ku tagta marka waa wax u baahan in dib loo eego falsafad horna lagu eego lacag ka yar ka sareysa inta oo shirkada ah hada ashqaasta la siinta laga daayo shirkado inta la isu geeyo wax muuqda ku qabsan kara in la sameeyo adreeska waan qaadanay xafiiska shaqo abuurkana in kor loo qaado oo heer commission laga dhigo si shaqooyinka uu qabanayo shaqooyin ka hufan kuwii hore ay noqdaan waa laga shaqeeyay arrinta la xidhiidha maxaa idin qabsoomay 3 sanadood achievementska jira si koob baan u dul marayaa kow waxaa noo qabsoomay nabadgelyada deegaanka oo sugan oo waxa la yiraahdaa negative peace aan ahayn negative peace waxa weeye intii naga horeysay waxa laga yaabaa magaalada iska deganeedo laakiin nabadgelyo cabsi leh oo argagax leh iyo nabadgelyo dadku xor yihiin way kala duwanta marka nabadgelyo noo qabsoontay waxaa noo qabsoomay deganaansho siyaasadeed deegaankan waxaa isku eryin jiray ururo ama qabaayil isku eryanaya oo 14 ama waxaa isku eryin jiray xoogag hubeysan iyo kuwa kale deganaansho siyaasadeed oo fiican baa ayaa noo qabsoontay waxaa noo qabsoomay midnimo hogaaminta Soomaaliyeed oo keentay in fagaarayaasha dalka si midaysan wax looga raadsado waxaa noo qabsoomay in dadku si xor ah sidii aan hadda ka hor ballan qaadnay ay u dhaqdhaqaaqaan u hadlaan u ganacsadaan oo monopoly ganacsiga u ballaarnaa ee dawladdu dhinacna ay ka ahayd ganacsato dhinacna ay ka ahayd dawlad ay ka ahayd cartelkii noocaas ah inuu burburo maantana shacab fara badan oo awoodooda guriga ku dhisanaya ku shaqaysanaya si xor ah maaragtay dhaqaaluhu u kobcinaya inay jiraan waxaa noo qabsoomay dhanka horumarka in mashaariic fara badan oo ballaaran oo muuqda la qabtay magaalooyinka laamiyada ka socda ka mida ilaa iyo 11 isbitaal oo isugu jira kuwa cusub iyo kuwa upgrade kor loo qaaday baa ku jira 500 oo dugsi in ka badan yaa ku jirta walow dadka arinta dhaleecaynaya ay iska soo jeediyaan oo fikiruna 500 ma jirtay oo kala oo degmo walba ku taalo GPS-ka sawirkeedii la hayo waxaa noo qabsoomay mashaariic biyaha oo fiican ay socdaan oo meelo badan ka socda dhanka horumarka wax la taaban karo wanaagsan oo bilow ah iyadoo gadulooyin ay jiraan yaa noo qabsoomay waxaa noo qabsoomay in dadka aan ka xoreyno cabsidii dhanka diintooda ka haysatay inay lagu shaambadayo magacyo astaamo ururo oo shacabku ay u madax bannaan waa inay diintooda si rabaan u caabudaan magacyo loo yeelo waxaa noo qabsoomay in waxyaalihii marajaaga la odhan jiray ee dadka cabsida ku haya argagaxa ee networkska ahaa ee patronage politics waxa la yiraahdo wax salka ku haya qof godfather meel fadhiya oo ajnabi oo Soomaali ahayn oo loo tago inay soo afjaranto marka wax fara badan oo noo hagaagay baa jira waxa kale oo noo qabsoomay in la tayeeyo korna loo qaado hay'adaha nabadgelyada waxa noo qabsoomay in bilow fiican uu ka jiro hay'adaha cadaaladda iyadoo goldolooyin ay jiraan sidii la sheegay reform dhameystiran aan wali la gelinin laakiin maanta kuwa dadka dhibaateeyo 20 sano iskaga xukumay iyo 15 iskaga xukumay iyo ma aha sidii ay ahaan jirtay su'aashii marka hore la soo qaadan ku soo noqon doona benchmarkigiinu ma dawladdii hore ama waa raacin doona hadhow waa kuwa hadda lagu cabanayo daalushaa la qaataa wixii cadaalad looga sameeyo arrimo noocaas ah isolated cases taana in la xaliyo diyaar baa loo yahay laakiin ha habeenta la soo tooso dad cusub inta la abuuro la bedeli kara ma aha waa wax isbedel akhlaaqeed u baahan waa wax aqoon fara badan u baahan in la dhiso waa wax u baahan in jaamacadaha sharciga arday badan geysano weeyaan taana way socotaa marka wax qabad fiican oo aan isleen waxyaalaha u ballaaray wax qabadkii kuwa weeyaan waxa noo qabsoomay in la xisaabtan fiican hay'adaha federaalka aan la yeelano oo keentay ilaa iyo hadda 7 wado in ka badan 2,000 kilomitir oo laamiye deegaankeena inay ka bilaabmayaan ama ay ka bilowdeen in ugu yaraan 3 magaalo leerka 4 saac hadda la gelinayo kuwa kale loo socdo in hadda laftigeeda lagu jiro in inta in ka badan la sii raadiyo airport ay ka mid yihiin iyo jaamacad dheeraad oo saddexaad oo dhawaan aan isleeyahay gobolka hil doona marka xisaabtanka iyo midnimada Soomaaliya waxa kale oo noo qabsoomay dadkii Soomaaliyeed dabku ku shidna 4 koono aan ka damino maanta gobolada Oromiya si xor ay u dhaxmaraan Ethiopia dhexdeeda ay noqdaan dad ammaan ku mari kara oo dakana aan loo sameeynin halkii markii hore meel ay u dhaqaaqaan ay laayeen waxa noo qabsoonay codka iyo miisaanka aan ku leenahay Ethiopia uu kor u kaco
oo afkaaraha aan jeedinayna maanta ay headlines noqonayaan halkii shalaytoole aan ka ahayn gobol yar oo periphery ku degan oo macno badan aan lahayn waxyaalahaasoo dhan waxaan u arkaa waxyaalaha noo qabsamayna yihiin ma xukuumaddii hore ayaa miisaan idii ah deegaanka mise benchmarkigu muxuu yahay markaad wax ka duulaysa mise gobollada kale su-aashaas waxay ka imanaysaa marka laga hadlo waxyaalihii xumaa ee hore dareen ah laba dareen ka iman karaa mid waxa weeye wixii hore yaan la sheegi waa la sheegi waa taariikh waa laga hadlay marka waa mid waa amnesia collective amnesia in la isilowsiiyo wixii dhacay tacaddi ahaa oo dhibaato ahaa qayb ka mid a dadka qaarkood way ka tahay arrintaasi kullina sax kama aha oo matalan ba kolkii aanu nimid halkan waxaan dabcanay xuquuq insaanka iyo dadkii la tacaddiga lagu sameeyay in la raadiyo bil markaan hawshii joognay in gud sameynay waxaa la bilaabay maxay ahaay war muxuu ahaa ninkan xawalaha qodayay iyo wixii hore maalin laga daayay waa la bilaabay waa laga hortegayay si aan cadaaladii hawshii dadka dhibaato ku dhacay loo gaadhin way ka soo gudubtay waxaa la damcay in dadkii shacabka dhibaateeyay iyo wixii social censure lagu sameeyo oo la yiraahdo hebel iyo waxaa dadkoo dhan waxaa loo socdaa in la takooro oo shalay waxaasaa samaysay la yidhaah oo ujeedo qabiil baa ku hoos jirto waxyaalo ka hortaga bay ahaayeen benchmark marka adduunka la xisaaminayo sideedaba markuu qofku su-aasha soo qaadayo isagoo ku mahadsan walaalkaygu soo dhigay halkan adduunka bal waxaad eegtaa meel walbo laga hadlayo benchmark waxaa la yidhahdaa waa wixii hore iyo wax hadda taagan waa qasab haddaad ka hadlayso hoolkan doorkii hore rinji waxaa marsanaan jiray iyadoo iminka waxaa la mariyey rinji cad baa la mariyey baad odhan taa macnaheedu ma aha in la leeyahay doorkaa hore wixii jiray wax ka fiican maadaamaan samayna intaasaa nagu filan ma aha macnaheedu waxaa weeye waxaa laga hadlayaa maxkamadihii shalay 20 sano dadka lagu xukumi jiray maanta laguma xukumo waa horumar fiican laakiin laaluush iyo dhulkii oo dadkii la isaga xukumayay arrimo kale jiray aan hagaajino wey benchmarkska yaan la diidin marka la soo qaado macnaheedu ma aha in la leeyahay haddii dowladdii hore waxay sameeysay wax ka duwan aan samaynay intaasaa nagu filan maaha maxaa idiin ah ma deegaanada kale idiin ah deegaanada kale kuwa aan meelaha qaar ka fiicanay baa jira deegaamada dhaama sectorally iyo issue wise arrin walba ma aha inay nagu dhaamaan deegaanadu marka deegaano wax fara badan ku dhaanaa jira deegaano hadda saan u hadlayno xuquuq insaanka aan ku dhaanaa jira kuwa aan ku dhaanaa jira political space-ka dimuqraadiyadda aan ku dhaanaa jira hadda saacaddan hadlayno kuwa xorriyadda qolka aan ku dhaanaa jira kuwo aan ku dhaanaa jira ganacsiga iyo xorriyadda ganacsiga jira marka deegaan kasta kaasa noo ama ahee waxa weeye deegaan kasta wuxuu nagu dhaamo inaan kaga dayano waxaana waa ku dhaanana inaan sii xoojino weeye ujeedadu marka benchmarksku naturally mar haddii laga hadlayo dowladdii hore in laga hadlo qasab bay noqonaysaa haddii cid dhibsanayso wax kama qaban karno laakiin waa laga hadli mar walba oo maaragtay la soo qaado wax la sameeyey waxaasee la sameyn jiray iminka waxaasee la sameeyey waa la odhanayaa arrinta ku saabsan doorashooyinka iyo afkaaraha arrinta ethnic federalismka iyo constitutionka toos baa rabaa inaan u abaaro 100 jeer ka badan inta aan soo qornay ama aan ka hadalnay mabda aan ka aaminsanay arrinta waxaa laga yaabaa interview la bixiyey oo kii madaxweyne ku-xigeenka hadda uu bixiyey oo si khaldan loo dhigay in ilaa iyo hadda la sii wado shaki lagu abuurayo oo ah xisbigan hadda talada haya ee Somali Prosperity Party deegaan ka taliya labadaa mabda madmadow baa kaga jira ama madaxweynaha madmadow baa kaga jira madmadow nagagama jiro waay loo raaci lahayaa boqolka statement ee kan maanta aan sameynayno uu ka mid yahay kuwa uu loo daba socda in waxaan nidhaa saddex baan u halgamaynaa annagu xisbi ahaan kow ismaamul dhab ah genuine self rule ismaamul dhab ah oo shacabka Soomaaliyeed Itoobiya dhexdooda ay ku haystaan waa number 1 20 sano waan u halgamaynay oo waxaan ku bixinay qiimo imikana waan u halgamaynaa wax shaki ku jira mid madmadow genuine self rule of the Somali people in Ethiopia in ismaamulaan laba sheerka aan ku leenahay dalka inaan sidiisa u qaadano xaq aan ku leenahay ku siyaasadeed iyo ku dhaqaale iyo ku diblomaasiyadeed ku walba inaan xaq anaga Itoobiya aan ku leenahay aan qaadano way laba ta saddexaad waa inaan midnimada shacabka deegaanka Soomaaliyeed ilaalino oo dhexdiisa cadaalad loo sameeyo markaan leeyahay marka genuine self rule waxa ethnic federalism ka soo galaya structure-ka maanta dhisanay deegaanka Soomaalidu sidiisa inuu yahay baan rabnaa deegaanka Soomaali waxaanu ka cararaynaa in uu kala burburo sida koonfurta Itoobiya kale siyaasado khaldan inta la keeno Soomaalidu isqoonsato oo ay kala go'go'do yaan ka cararaynaa sidii u dhisan yahay baan rabnaa inaan u qaadano halka waxa ka cad marka wax ethnic federalism la yiraahdo oo aan diidanahay ama aanu muxuu ahaayay ka walacsanahay ma jiro waxaan rabnaa inaan ismaamul dhaba oo qowmiyadda Soomaalidu ay haysato aan haysano dhanka dastuurka hadda jira
waxaa la yidhaha baa jira constitution iyo constitutionalism waraaq qoran buu ahaa waraaq iska qoran wax dastuur oo jiray haba yaraatee ma jiro dastuurka aan kuu saamaxayn xaqaaga aroorti intaad soo toosto habeenkii inaad seexato inaad ku kalsoonaan karto waddankaaga dastuur maaha warqad iska qoran weeyaan dastuurka waxaa dastuur ka dhiga ma aha theory-ga ku qoran waa practice-ka in the absence of practice any paper oo la qoro dastuur la yidhaahdo wax dastuur lagu sheegi kara maaha what matters is constitutionalism dhaqanka weeye practice-ka boos kuwa la qoray ee formally u qoran ee la leeyahay waxaasaad xaq u leedahay iyo kuwa aan qorayn unwritten rules of waxaa la yidhahdo oo ah waxyaalo aad awood u leedahay laakiin aad iska ilaalisa ay tahay restraint waxa la yidhahdo saa daraaddeed dastuurka Ethiopia hadda qodobka ay Soomaalidu ka hadlaysaa hadduu yahay qodob ku saabsan ma deegaanimadii qoomiyadaha ahaa in laga noqdo rabtaan maya waa clear dastuurka ma lagu samayn karaa revision haa waa lagu samayn karaa dastuurka la bedelaya marka la leeyahay maxaa laga bedelayaa baa ku xigta su'aalaha way iman doontaa haddii la yidhaahdo luqadda Soomaaliya lagu darayaa luqadaha dalka dee dastuurka in la bedelay noqonaysaa hadda kuma qorna ileen haddii la yidhaahdo calankan Ethiopia loo heshiis laguma aha sidaa daraaddeed calankan qoomiyada wax ka qabaa jiray hal la bedelo calanka la sameeyo dastuurka in la bedelay noqonaysaa so dastuurku waa waxna lagu dari karo waxna laga dhimi karo every generation should have its own constitution baa la yidhaha actually every generation because things change 30 sanadood 40 sanadood drastic change baa dhacaya bulshada walba marka dastuurka in la bedeladan si yar maqafalnimo ah oo yar eedayn ku dhex jirto kale oo roo u isticmaalaya jira iyo shaambadayn taa marka laga tago dastuurka haddii la bedelayana kuma jirto qodobka self rule-ka iyo self determination-ka iyo qoomiyadu inay ismaamulaan qodobka anagu in la bedelo ma taageersanin waan ka halgamaynaa waan ka dagaalamaynaa taa marka laga tago waxaa jira arrintan ethnic federalism-ka laga hadlayo qodobka garab socday ka idinku hadasheen maahayn wuxuu ahaa qoomiyadaha kale ee ku dhex nool gobollada xaqa ay leeyihiin muxuu yahay qaabka in loo dhigo ayaa ka fiican in la yidhaha waa la burburinaya taa waa laga doodi karaa dadka aan Soomaalida ahayn ee jijiga ku nool xuquuq siyaasadeed ma yeelan karaan dadka Soomaalida ah ee adsaba ku nool xuquuq siyaasadeed ma yeelan karaan waa arrin la xidhiidha xuquuq siyaasadeed oo dad ku dhex nool deegaan laakiin taasi inay keento ma sida hadda loo frame gareeyo ee xitaa dadka diidan ethnic federalism-ku say u frame gareeyaan si cabsi gelinaysa dadka qoomiyadaha ah weeyaan hadda oo ah hala tirtiro dastuurkan ha laga noqdo si yar cabsi gelinaysa weeye waxa iyaga xilftooda u dhaantay inay u dhigaan si saa ka fiican oo ah dadka meelaha ku nool ee kale ee deegaanada kale u dhashay maxaa looga baahan yahay inay xuquuq siyaasadeed helaan ma inay afka bartaan ma inay shuruucaha iyo dastuurka gobollada u hoggaansamaan inay qaabka usoo dhigaan baahay marka waa dood socota laakiin fikirkaan ka hadlayaa qoraal ahaan waxaan raacaynaa waa xisbiga PP hadda qoran dokumentigii manifestigii doorashada ayaa qoran oo af Soomaali lagu turjumay oo taale weeyaan marka doorasha la gelayaa waa la isdilaacayn doonaa laakiin xaqiiqadu waa sidaa madaxweyne ku-xigeenku hadalkii uu ka yiri Baahir ma ahayn sidaa loo dhigay isagoo dhammaystiran interview headline-kii wariyuhu qaatay baad akhrideen isagoo dhammaystiran wuxuu ku jiraa wuxuu ku jiraa page-kina la soo geliyey in la dhageystaa fiican isagoo dhammaystiran kolka la hadlayo qofku wax laga wareysanayo hypothetically waxyaalo uu ka hadli karaa jiro oo qiyaaso matalan baad sidaa la yiraahdo dastuurka waa la bedeli karaa sida hadda aanu hadlayo kale anu dastuurka waa la bedeli karaa haddii wariyuhu ka qaato headline kooban ah dastuurka in la bedelo ku dhawaaqay madaxweynuhu way dhacdaa marka tusaas ahayd madax ku-xigeenku ma odhanin dastuurka ha la bedelo wuxuu yidhi dastuurka in la bedelo sidii lagu bedeli lahaa isagu ku qoran yahay constitutional stipulations baa jira sheegaya qaabka loo bedeli karo waa inay 2/3 of gobolladu soo ogolaadaan nidaamka unbaa la mari haddana buu haddii loo baahdo jawaab noocaas u bixinayay arrinta gobolka city arrimaha doorashooyinka waa hawl socota saad la socotaan fahan laakiin u baahan saddexdan qabale ama saddexda center canfarta la isku haystay waxay ahaayeen sentaro dowladdii hore ay wareejisay nasiib darro waan ka hadlaynaa dowladdii hore waa dhac ficilkeedii dowladdii hore sentaro ay wareejisay u saxiixday oo ay gacanta ka gelisay canfarta weeyaan wax dastuura loo maray ma jiro xukuumaddu maalinkii ugu horreysay hortaas ay hortooda timid way burisay heshiiskii noocaas ah politically deegaankaasi deegaan canfar leedahay ma annaga le baan nidhi aan soo qaadanay iyadoo adag tahay xilliga iyada in arrimaha la soo qaado go-aankii kabinetka noocaas ah isagoo qoraal oo la raaciyey house of federationka la geeyey waxaa la geeyey xafiiska nabadgelya dalka la geeyey marka waa go-aan siyaasadeed baa laga qaatay
haddana go-aankii u dambeeyey ee doorashooyinka guddiga doorashooyinku qaateen waa inay ka codaynayaan macal saddexdaa qabaleen inay u codaynayaan deegaanka soomaalida wey oo dadkaa soomaalida canfar la hoosgeeyey maanta dadka ay dooranayaan canfar ma aha waxay dooranayaan dad soomaaliyeed in that sense 100% waa ku guulaysan wixii aan rabnay both politically iyo electorally-ba 100%. laakiin inay dhammaystiranto waxay u baahan tahay inay awood u helaan meelaha ay joogaan laftigeeda inaan laga kaxaynin inay halkaa ku codeeyaan maxaa lagu mambarsoonaya marka hadda security waxaan ka baqaynaa inuu dagaal ka dhaco sidaa daraaddeed dib ma u bixi kartaanoo meelo 20 kilomitir iyo 30 kilomitir ma ku soo codeyn karaan arrintan noocaasi halkaa keliya kama jirto dalka meelo fara badan haddii insecurity ay jirto halkaa halgadu waa la odhan karaa laakiin tan anagu kuma raacsanin in sidaa loo dhiga ay tahay waxaan aaminsanahay meelaha in laga codeyn karo wax nabadgelyo keeni karaano ay tahay haddii weerar la soo qaado weerar in la soo qaadana dee cidda soo qaadaysa in lagala hadlo waddanka dowladda ka jirtay laakiin in lagu qiilsameeyo la yidhaha meeshan go-aan baa dhacay go-aanka wuxuu ahaa meelahan waxay u codaynayaan deegaanka soomaalida go-aanka hadda in cidda kale inay canfartu ixtiraamto in loo sheego in la yidhaha maaha inta go-aankaa la qaato haddana la yidhaahdo inuu dagaal ka dhacan ka baqaynaaye bal dib u baxa in la yidhaha laakiin process socdo weeyaan maamul canfareed saddexdii center maanta kama jiraan kama taliyaan shacabkaas shacab la haystayaal ahay way ogyihiin maanta maamul soomaali aan haynin iyaga uma taliyo wixii ay u baahan yihiin uma geeyo ciidanka ma joogo uma maamulo marka horumar siyaasadeed oo la sameeyo ballaaran weeyaan waxaan raacsanayaa arrinta amniga dhanka amniga bilowgii hore goldolooyin baa jiray shacabka inta badan isdifaaci jiray oo dagaalami jiray dhibaatooyin badan baa halkaa ka jiray laakiin arrintii waa la saxay laakiin hadda waxaan u dhaxaynaa arrinta gobolka city inay noqoto hawl qadiyaed baa la rabaa hawl la siyaasadeynayo siyaasiyiin ka faa'iideysanayaan ama fordhi ku dir inay noqoto maaha waxaan u dhaxaynaa aroortii markaan soo toosno ee halkaa wax ka dhacaan shacabkii baa la difaaci waayey in la yidhaah shacabkii baa la difaaci waayo maanta 10 baa la dilay 20 baa la dilay in la yidhaah iyo in shacabkii inta la difaaco askar dhimato oo la yidhaahdo maxaa askartu u dhimanaysaa labada extreme baa loo dhaxeeyaa labadu wax caafimaad qaba maaha haddii shacabka la difaacayo askartu way dhiman unfortunately cidna kuma faraxsan askar inay dhimaato xanuun bayna gelinaysaa annagaa mas-uuliyaddii joogna annagaa maanta maaragtay hoostamada dhibaatadooda arkayna kuway ka baxeen annagaa hor fadhiisanayna laakiin haddii xaalad noocaasi abuurato oo difaac deegaan yimaado dhimasho iyo dhaawac buu imanaya wax la garan kara weeyaan marka horumar amni baa la sameeyey sababtoo ah goobaha lagu dagaalamaya waa goobihii frontiga ah ee hore weeyaan hal advantage oo xagga kale haystaan baa jira oo ah gurmad degdega iyo deegaankii u dhow laakiin annagu shacabka in la difaaco go-aankii hawaan fulinay waa la difaacaa wax dhiili iyo balaayo kama jirto waxaana arrintaa caddaynaya oo annaga wareer nagu hayn lahaa hogaaminta dhaqanka ee gobolka city hogaaminta siyaasadeed ee deegaanka soomaalida hogaaminta siyaasadda ee ka soo jeeda gobolka city haddii ay dhib ku qabaan qaabkan arrinta u handil garaynayno inaan kala xaajidno hor fadhiisano diyaar baan u nahay laakiin ashkhaas ka dhex raadinaysa dana siyaasadeed arrinta ama ku ceebayn shakhsi inay aroortii la soo fadhiisato ay tiraahdo muxuu ahaayey maxaa hebel baa hadduu joogo saas manay noqoteen hebelku waa kii saxiixayba dhulkan wey in fact saddexda qabale ee meesha hadda la isku haysta ma laha kuwan kale ee dheeraadka ee cadayli iyo meelahan kale afcaysi iyo dheeraadka ee hadda laga hadlayo daraasad bay haysataa canfartu research oo lagula soo heshiiyey samare in loo seexi doono oo 14 saacadood har aan kaga doodaynay oo lahaayeen waa kan madaxweynihii hore noo ogolaaday in looga dhigo qabalayaal saddexdaa qabale oo hoos tagaan baan heshiis ku gallay saxiixi isagoo ay taagan tahay baa xilkii uu ka tegey maxaad idinku diidantihiin maad sii socotaan arrintaa leeyahay oo wax xaqiiqo oo qoro oo taariikhu yaallo weeyaan arrintaa ammaan baan ku leenahay city gobolka city hawsha aan saan ka yeelay dhaliil way jiri kartaa dhaliishaasna mar walba in la iska wareysto la sax weeyaan arrinta goormay dhammaanaya dhiigu iyo daadashadu waxay dhammaanaysaa marka cidda dhiigi daadashada wadda ay go'aansato inay si nabadgelyo ah arrintaa ku xalliso annaga maaha nu diyaar baan u nahay dadka soomaalida ee halkaa jooga rabitaankooda in la ixtiraamo cid gumaysan kartaa ma jirto 30 sano ka hor kuwii qabsadeen dhulkii qabsadeen qoladii TPLF-tu maanta ma joogaan laga kiciyo ka tegey dadkan dhowr sano ka hor baaba la hoosgeeyey in xaqooda loo ixtiraamo soomaali weeyaan haddii ilaahay soomaali baan rabnaa hoos tagno cid qasbi karto oran karta ma tegi kartaan xaggaas tegaysaan sidii saraakiishii TPLF-ta hadday jirto ma ogolin saa daraaddeed in ay wuxuu dhammaanayaa markay cidda kale garowsato inay si nabadgelyo ah ku raadsato xoog aan soconayn intaa ka hor waxaan u malaynayaa hawlahaas way sii soconayaan
arrinta amiire yar ee laga hadlay waa case maxkamadeed weeyaan taa ka hadashay social media gashay kuwa aan gelin oo ciidda ka badan amiire yar lamid baa laga yaabaa inay jiraan shalay iyo darhad lix qof oo dhimanaya meelaha ku dhimanaya baa jira oo dagaal qabil ku dhimanayay marka sensational agendayaal sensational in la soo qaato maaha gabadha hawsheeda waan ka xunnahay waa gabadh Soomaaliyeed waa in maxkamaddu ay ka qabato waa in processkii lagu xalin lahaa lagu sameeyo laakiin arrin keligeed oo isolated ma aha taa aad maqashay tu lamida oo fara badan oo jirta xalku waxa weeye in nidaamka cadaaladda iyo dhaqankeena guud laftigiisa la soxo moral compasska society-ga in la hagaajiyo akhlaaqiyadka dadkeena sida waxa dhaco ka u dhicin dhinaca kale in nidaamka sharciga ahaa halkan mar haddii lagu soo qaado arrintaas oo xor loo hadli karo oo maxkamaddu u furan tahay wax caqabad hor yaalla ma jiro xukuumaddu diyaar bay u tahay in wax ka qabato qaabka laakiin loo sensationalize gareynayo qaab cadaalad darra jirto gabadh baa lagu yiri dowladda ma lagu gabadha waa domestic abuse case it happens everywhere meelana ka dhici ma jirto maanta shalay trialki mareenka taagnaa nin har cad soo kamera lagu duubiyo police deba yaa muuqatay so let's contextualize our complaints context sax aan gelino dhibaatada aan qabno wadan aan waxba ka dhacayn cidna lagu dilaynin oo domestic abuse dhacayn oo human rights violation dhacayn ma joogno way dhacayaan waa wanaag in la soo saaro laakiin qaabka kolkaa qaab daliil xukuumad looga dhigayo fair ma hadduu fair yahay waan qaadan lahayn waa qaldanahay waa sax dhab odhan lahayn arrinta xukuumadna ma dilin mana garaacin mana dhibaateyn in la xaliyana diyaar ba u tahay maxkamadda u furan yihiin haddii gaabis uu jirana inta la dabagalo ha la soxo arrinta ugu dambaysa waa arrinta barakacayaashu lacag bay u baahan yihiin simply qorsho maxaa idinka qorshaysa waxaa noo qorshaysnaan karaa keliya wixii lacag aan hayno without resource there can be no plan waan jecel lahay saaka arooti inaan helo 4 bilyan 5 bilyan oo intaan dadka soo kaxayno guriga ugu dhisno ku kala kaxayno ma hayno magaalada jijiga biyo u baahan tahay iskuulaadku macallimiinta jooga mushaar bay u baahan yihiin askartan halkan joogta mushaar bay rabaan lacagta la hayo ee kooban ee sidee loo qorsheeyey ma si khaldan baa loo qorsheeyey wala isweydiin karaa aan eegno prioritizationka barakacayaashu laba qaybood oo xalkoodu mid waa waxyaalahan daruuriga ee noloshooda asaasiga life saving interventions baa la yiraahdaa anu barakacayaasha shaqadooda adduunka meel baan ka soo shaqeeyay from Zimbabwe Somalia to Gulf baan ka soo shaqeeyay barakacayaal 2 sano iyo 4 sano ku xaliso ma arag inta noloshooda soo joogo kolku meesha barakac u ka dhaco dadka meesha dega dadka la ku soo biiro host community la yiraahdo dad la socota how many of the people barakacayaasha hadda ayaa ah kuwii originalka imisa ku soo biirtay oo host community maadaama nolosha kaamka taala ay dhaantaba tan dadkan kale caadiga barakacayaasha aan ahayn baahi ahaan marka waa la kaashanay hay'adaha qorshe wuu jira in kolba tartiib intii la karayo la kaxeeyo oo laga qaado haddaba markuu roobku doo qaar la kaxeynayo oo la geynayo jira meelo kale oo in la kala dhimo ah laakiin arrinta barakacayaashu waa arrin dhaqaale massive ah iyo support balaan u baahan nasiib darro xukuumadda horadana waa la soo qaadaya cid ka xumaanto lacagtii Oromiya iyo deegaanka Soomaaliya loogu dhiibay 1 billion loogu dhiibay ahayd in lagu kala kaxeeyo markii hore ay yaraayeen waa laga cunay lacagtoodii waa la qaatay Oromiya guriga ugu dhistay aad sabay ku geysay tii Soomaaliya la siiyay waa la qaatay waa la tagay walow lacagta dawladda hore aad moodo lacagta ay qaadatay waxaan wali bama wax musuq ku sheegay dawladda hore harka cad gaari baa lacag lagu qaybin jiray walow dawladda hore aan musuq ahayn iyadu oo maadaama lacagtu iyadu lahayd ay qaybin jirtay ay musuq ahayn haddana 1 billion lacag ku dhawaada oo la siiyay barakacayaasha meesha lagu soo ururiyay khaladka ugu weyn dawladda hore ku lahayd dadka waxa loo soo ururiyay siyaasad baa ahayd way soo qaxeen xaqiiqadu waad ogtihiin way soo qaxeen dadkoodii way u kala tageen iyadoo laga rabo in laga baxsado oramaad barakiciseen ayaa dadka inta la ururiyay arool la kaxeeyay meesha lagu ururiyay xaqiiqo jirto weeyaan is historical fact idma diidi karto si siyaasadeed ma meesha loo geeyay hadda raashin baa la siiyaa xarun caafimaad ay leeyihiin iskuulaad baa loo dhisayaa xaaladoodu xaalad fiican ma aha laakiin kama baana marka laga tago concentrationka ay isku urursan yihiin iyo covidka kama baana nolosha dadka faqiirka magaalada jijiga jooga ay joogaan laakiin waxay dheer yihiin iyagu magaca dad socday barakacayaal baatiin qaybta lagu xaliyo durable solution baa la yiraahdaa life saving intervention way haystaan hadda 40 milyan oo biyo gelina loo sameeyay maalin dhaweyd intee leeyahay tuula inta haysta kuwa ku agdhow ceel baxay ma haystaan marka barakacayaashu dhinac way ka fiican yihiin sensational agenda ay noqdaan ma iyaguna laakiin arintii ahayd in comprehensive solution loo raadiyo comprehensive solution oo ah in la raro meel dib loo dejiyo wali lama xalinin sababtoo dhaqaale ku filan looma hayo laakiin dadaalkeedu wuu socdaa hay'adaha waa la kaashanaynaa as wiiga laftigiisa safari Mareykanka oo laga hadlay arinta intaas aan ku soo koobi lahaa su'aalihii ugu waaweyn maadaama kuwan ahaayeen waxaan rajaynayaa kuwa dambe inay koobnaan doonaan maasin
madaxweynuhu mahadsan yahay aniga laftaydu fursad waxaan u siinaya maadaama bilowgu tahay inuu fursad badan qaato oo nafiso marka waxaad samayn doontaan idinkuna kooba madaxweynuhuna inoo soo koobi doona isagoo aada u mahadsan wixii aad ka qanacdeen ee uu dhameeyeyna waxaan jeclayn inaynu su-aalo kale uga gudubno laynka xaggii umaan kasoo bilaabay sidaas maan usoo wadi doonaa fursadda xaggaasaan soo siin doonaa culays hayse saarina waxaan siin doonaa inanka u dambeeya aan siin doonaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا مهدينا يا مدحوينا الدولة ديجان كصومالي دا مصطفى محمد عمر إماتي كوال كان يمد هذه أطباء مدن مدحوينا وقوم هتسان تاي سؤال شيء ذو واحد لحدي دا مدن مدحوينا سعر برر كيا وحنا رعاية حالة دقة عليه وطن كساميس ودك تايتني يسبد الكوين تودعي سعر برر كوح وجاري ميل ونولي هورو وجاري tusaale yar haddii aan ku siiyo haafka bariiska waxaa la siin jiray maxaa kartoonka baastada waxaa la siin jiray isbedelka horaantiisii 250 imikana 550 buu maraya xabadda roodhidii bariga waxay maraysay 1 riyaal ilaa 2 riyaal imikana waxay maraysaa 7 riyaal ilaa 8 riyaal gaadhiga niista dhinaca dhismaha wuxuu marayay bariga 2700 imikana 5700 buu maraya booyada biyaha 600 bay maraysay maantana waxay maraysaa 3600 سعر برركا iyo xakamaynta sicir bararka iyo pricing-ga waxa u xil saarnaa xafiisyadii u xil saarnaa mudane madaxweyne aad bay uga gaabiyeen su'aal ka dhig su'aal ka dhig su'aal baan u socdaa hay su'aal soo koob su'aalna ka dhig marka mudane madaxweyne dawladdaada waxa uga qorshaysan kontroolka xakamaynta sicir bararkani maxay tahay mase kula tahay in haddii ururada macaaridku ay arrintaayada ku campaign gareeyaan inay idinku luus garoobaysaan dhinaca doorashada waa mahadsantahay aad baa mahadsantahay inamada dhexisay labada inanka buugga taagaysay بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها aad baan u salaamayaa iyo maxamed ilegba anu maxamed cabdisalaam weeye faras eri madaxweyne waxaa jira xukuumaddaada wasiirada mushaharkooda uu kooban yahay 15 kun oo bir bay qaar qaataan haddana habeen kasta waxaad arkaysaa wasiir ku casheynaya 5 kun oo bir iyo wax la halmaala maalintii isticmaalaya gaadiidkii dowladana ku shunkaas tagay hadduu doono saqda dhexe magaalada ku meeraysanaya isagoo kaba sandala iyo shaaboon iska xidhan taa miyaanad musuq u aqoonin haddii aad musuq u taqaano maxaad wax uga qaban weydi su-aashan ku weydiinaya kale waxay tahay dhalinyarada shalay markaad maalintii dhaweeto ka hadlaysay kula weynihii dhalinyarada waxaad tihi dhalinyaradu qabyaaladda ha iska daayaan wax kastana waxaad ku qaybisay qabiil qofka dhalinyarada yuu noqonaya ileen adeerkii baad wax ugu qaybisay ugu dhiibsay haddaanu qabiil ka hadan yuu ku biirayaa cidooba noqonaya waad mahadsanta عليكم دمان وسلامتين مقعي واجويريا سبعس مدن مدحويني هل سؤال ayaan rabay inaan ku weydiiyo su'aashaas kulay qabiil lagama dhamaanayo laakiin political involvementiga dumarka ma waxa aynu weli ku jirnaa in ay wasiirnimada gabdhaha loo magacaabaya ay xafiiska haweenka kaliya ay dhaafi weyd oo moodidana dhaxal u yeesheen maxaa u diiday gabdhaha kartida iyo aqoonta leh ee dadnimada leh rag badan haday doonaan kaba fiicanba in ay xafiisyada horumarinta in loo dhiibo maxaa diiday haddii aynan weli ahayn yasidii amaba gabdhuhu waxba iyagu waxma qaban karsana amaba qabiil ma matali karayso hadayna weli inugu jirin xukuumaddaada madaxweyne maxaa u qorshaysan isbedel sama rajayn karayna aad baad mahadsantahay الله وبركاته aad baan u salaamayaa martida iyo waliba madaxweynaha magacaygu waa Sihaan Maxamed Maxamuud waxaan ahay martida ka soo qayb gashay shirkii inoo socday waliba doodan su'aasha madaxweynaha ku weydiinaya waxay tahay 2 point waan ka hadlayaa kow su'aashan ku weydiinaya waxaan ku amaanayaa isbedelka yimid ee deegaanka ka dhacay kow su'aashaydu waxay tahay madaxweynuhu maadaama uu yahay ruux dhalinyar ah isbedelka yimidna ay dhalinyarta badankooda saameysay madaxweyne ma jirtaa policy aad u leedahay dhalinyarta ama ma jirtaa xafiis u furan oo qaabili karaya dhalinyarta maadaama dhalinyartu tahay jiil wax bedeli kara waxna dhisi karaya talo badanna ay ku duugan tahay dhalinyaradu ma jirtaa fox ku gaara ama date ku gaara ama wasiir had iyo jeer details gaara la yeesho dhalinyarta oo face gareynaya maadaama dawladda dhalinyar ku dhisan tahay dalna dhalinyar ku horumari karayo aad baan mahadsantiin dhamaantiin su-aashaydu waxa weeyaan xasan cabdi su-aashaydu waxa weeyaan waxaan ku jirnaa waqti xasaasiya oo cudurka covid-19 uu dunida saameeyey gaar ahaan deegaankeena uu fara kulul ku hayo waxaa jiray hal mashiin ah oo deegaanka yaalay halkii mashiinna uu xumaaday harar baa loo diraa
mudday qaadataa dadkiina way dhammaanayaan xukuumaddu soo kama dhigna inay ku feelgarowday inay caabuqa la dagaalanto oy wax ka qabato kow su-aasheeda labaad ceelashaynii shidaalka ee ahaa hantida iyo resourcigaan deegaanka ku lahayn kaali iyo elele maxaa kaaga qorshaysan madaxweyne ma maalinka ay imanayaan marti inaynu garab cararno oon buuqanno deegaankiina maxaa uga qorshaysan xukuumaddaada aad mas-uul ka tahay maxaa uga qorshaysan oo ilaa hadda aad bulshada la wadaagi kartaa oo isbeddela oo ka taagan shidaalkaasi qaabka loo maareeyo su-aashii saddexaad waa mahadsantahay fursadii dad kale siinayna laba su-aaloodoo kala duwan baad weydiisay xagga dambaan ka siinayna ka kordhiya dhexdaasi magacaygi su-aasha magacaygu waa maxamed xaashi maxamuud su-aashan doonina madaxweynaha weydiiyo su-aalo way fara badan yihiin be laakiin aad baan u soo koobayaa doorashadan ka hadlayaa maadaama aan ahay musharax xisbi mucaarada ka tartamaya sidaa darteed su-aalahaygu way badan karaan raalli ha laga ahaado kow doorashada madaxweyne waxaad ballan qaaday in badan madaxweyne waxaad in badan ku celcelisay ballan qaaday in doorasho xor iyo xalaal ay deegaanka ka dhacayso waxaan ognahay wejigii koowaad ee diiwaangelinta musharixiinta in deegaankeenna oo deegaanada dalka ugu nabadgelyada badan lagu tiriyo ay diidmadii ugu badnayd ka dhacday tusaale cad waxaan usoo qaadan karaa gobolka liibaan oon automatically laga diiwaangelin wax haba yaraatee musharax xisbi mucaarida ah inkasta oo 2-3 shakhsi oo degmooyinka gobolka liibaan arrintaa guddiga doorashooyinka ka tallaabo qaateen waxaan aaminsanahay inayna arrintaasi ahayn arrin ay ku kaceen falkaas laakiin ay ka mas-uuliyad ahaan cidda ka sarreysa ama gobol ilaa heer deegaan ay arrintaa la ogeyd arrintaa maxaad ka qabateen waa su-aasheeda labaad aan raacsanay waxa weeye deegaamadan aan jaarka nahay oromiya dhul badan baan wadaagnaa jigjiga ilaa iyo mooyaale waxaa jirta istaraatiijiyad maamulka oromadu ay ka leeyihiin deegaamadeena soomaaliyeed oo ah in dadka la kasbado iyadoo dhinaca miisaaniyadda iyo dhinaca maaliyadda la marayo tusaale ahaan haddaan soo qaato degmada mooyaale dhinaca soomaaliya miisaaniyaddeedu waxa weeye 73 milyan halka dhanka oromiya ay tahay 200 milyan oo treasuryga toos lacagta uga soo dhacda ah ka madaxweyne ahaan dhulkeenna intaa leeg iyo dadkeenna xagga dhaqaalaha laga soo marayo istiraatiijiyad noocee ah baa idiga qorshaysan بسم الله مقعي وأقبال خضر وسلام يا مدحوينا سؤال شيء ذوي حويه مدحوينا واحد شراء وزيرو يا محيا حفيزير دلنيار تلقوا مقعة ومر والبا أنا ود دلنيارتي ديجان كأهنا ما شرتوا وحنا وقصوا بحا أم بوحنا كفايد وزير ذا يو حفيزير ديجان كدلنيار تلقوا مقعة ما وحنا أوران كرنا مر والبنا وحا وزير أما مدحوينا يعيد كستو مسؤول ديجان كأي وحنا مر والبوينتي وضع تابتان إن دلنيار تشقابور لا سمايا أو لقلا دقالمين شقلان نقدان ما وران كرنا شقابور كدلنيارta loo sameeyo waxay mar walba yihiin kuwa u baxa dad gaara iyo dad la calaamadaystay sidoo kale maadaama nahay dhalinyarta deegaanka xafiisyada iyo wasiirada la nagu magacaabo sida xafiiska dhalinyarada iyo wasiirka dhalinyaradu ma jiro kootada ama horumarin uu dhalinyarta u sameeyo ma waxaan nahay magacuyaal mar walba bahjad lagu cuno xafiiska dhalinyaradu wuxuu leeyahay bahjado iyo maxay dakhliyo u gaara mana jiro wax dhalinyar oo lagu horumariyo ma waxaan dhihi karnaa waxaan nahay magacuyaal lagu cuno bahjadka iyo maaliyadda dhalinyarta marar badan waxaa la nagu magacaabay meelo badan sida youth centerka dhalinyarada waxaa jira guest house-yo badan oo deegaanka ka jira cid seexatan aan la garanayn haddaan nahay dhalinyartii deegaanka ugu yaraan ma haysano cidda maanta noo timaada dhalinyarta ama Soomaaliya ama Soomaaliland nooga timaada meel aan kusoo dhaweysano iyo guest house aan kusoo dhaweyn markaas maxaa kaaga qorshaysan maxaa idiga qorshaysan dhalinyarta inaad u qabataan madaxweynaha intaasaynu siin doonaa waa 6 su'aalood su'aalaha haddaan su'aalihiina koobtaan madaxweynuhu jawaabaha loo koobi doonaa بسم الله الرحمن الرحيم أرنتا سؤال شو هو صح يلحق يدي سعر برك inflation كذا كتيرة كل طرشة هدية جنة لقد قايل لك كذا ما لقى يابا أنا ما مسني بالشدين وأنا كنت عايزين لها إن بالشدين issues كنوع عصا كلا كوكلا صارتوا سياسيين لكن political organization كديجان كين قف كستوف فاهمسن أجندة ونقول يا دورش ما قبوا إنه نقضي هاد بان قبل لكن مثلا إنه نقضي هاد سيد أبو ما كانوا هذا
oo the economy election ka dhaca adduunka oo dhan ka ugu muhiimsan weeyaan ama anagu aan laga guulaysto dembi ku yeelano ama cid kale ha ku guulaysato inuu noqday ahayd laakiin ma qabo inuu noqon doono aragtahan marka factor lagu kala guulaysan doono doorashadu noqon doona ma qabo maadaama qaabka aynu Soomaalinahay wax u dooran ay iska caddahay laakiin sicir bararku sidiisaba ama doorashaha ahaato ma ahayn waa wax noloshii dalkii saameynaya oo dhibaato ku haya intee laga bay xukuumaddu deegaanka Soomaalida iyo xafiisyadoodu ka gaabis ku sameeyeen intaan la gelin ka hor horta waxa ugu weyn ee sicir bararka deegaankeena dalka keenay muxuu yahay waa lacagtan sarifka isbedeshay weeyaan bulsho wax soo saarta ma nihiin waxaynu cunno wayn soo import garaynaa dibadii nooga timaada saa daraadeed shaygii kumbir ahaa $50 haddii uu $20 ahaa kun ahaa hadduu $50 noqdo $2500 buu tegaya 90% of inflation-ka jira waa mid la xidhiidha wax controlka gacantanaga dawladda haddaan ka baxsan weeyaan laga yaabaa 10% xafiisyadii halkan joogay dabagal ma sameeyaan dad lacag iska saarta ma sameeyaan haddii la eego goldolooyin way jiri karaan anu kulliba waxaan aaminsanahay generalization-ka dadka aaminsan ma yihiin ama conclusions-ka yar ee kooban ee dadku isla doontaan macnaha haddii sicir barar dhacay xafiiskii sicir bararka qaabilsanaa uu fashilmay waa in horta facts-kii la keeno muxuu ku fashilmay shaqaduu qaban waayey shirkadee wax ku dartay qiime oo uu ka gaabiyey waxaasoo dhan in la yidhaha malihi marka ma difaacayo mayna samayn laga yaaba inay jirto laakiin annaga nama caawinayso go'aan ahaan inaan qaadano go'aanoon idhaahno war hebel arrintaa inaad qabatay aad ka gaabis nama caawinayso haddii la soo qoro la yidhaahdo sicir barar muxuu u jiraa macnaha macroeconomiga dalka xagee lagu maamulaa doolarka sicirkiisa yaa jara lacagtii in la bedelo oo go'aankii la bedelo lacagta oo la waxeeyo yaa qaadanaya marka inaan inaga laftigeenu bileemka inta la kala leeyahay maxaad ka qabateen maxaa idinka qorshaysan waa sax waa dow waxaa nooga qorshaysan mustaqbalka fog wuxuu noqonayaa in waxyaalaha vulnerability-ga kordhinaya ee doolarkaasi inuu nolosha oo dhan xukumo keenaya in laga baxo productive sector-ka waxaa la yidhaha xoolaha iyo beeraha in kor loo qaado dadku waxay cunaan soo saartaan way halku mustaqbalka bal machinery-ga iyo gawaarida iyo wixii dibadda ka imanaya inoo dambeeyo ugu yaraan dadku waxay cunayaan inay soo saartaan dhulkiina waa haystaan ciidiina waa haystaan biyihiina waa haystaan taana xukuumaddu hadda focus inay saarto oo lacag balaayiin wadooyinka lacagta la gelinayo u dhiganta beeraha iyo la geliyo xoolaha weeye halka lagaga baxaya from economic perspective hadda laakiin wixii mitigation in la sameeyo u baahan dawlad ama wixii maareyn ah in la sameeyo ay tahay dawladda dhexana qorshooyin ay qaadataa jira annaguna waan ka wada hadlaynaa wixii aan qaban karno waan qaban doonaa sicir bararku badankiisu wuxuu la xidhiidhaa arrintaas arrinta la xidhiidha wasiirada iyo mas-uuliyiinta dawladda ku casheeya 5,000 bir mushaarkooda 15,000 yahay anugu suuqa ma joogo muqaxyaha ma tago muqaxyaha kama ogaan karo wasiir kasta oo 5,000 ku casheeyana 5,000 maxaad ugu casheysay ma oran karo ma qabsan karo ma weydiin karo intuuna wasiirka noqon soorsiye dadkooda leeyihiin nolol bay leeyihiin everybody qaab nolosha ku maamulo nin walba waxba waxa macnaheedu ma aha ama taa lagama raaci karo ma aha in la difaacayo ku tagfal awoodeed iyo ku miisaaniyad jirto iyo waa la garan karaa iska qiyaas karaa waan ka hadalaa in badan laakiin qaabka musuqa lagula dagaalamo adduunku haddii si dhaba aan cilmiyeysay isweydiino waxaa ugu horeeya kow asset registration in la sameeyo mas-uuliyiinta dawladda inay qoraan waxay hanti leeyihiin hadda way noo qorshaysan tahay bishan in la sameeyo maxaad haysataa mustafe maxaad hanti leedahay intaasoo dhul aan leeyahay intaasoo waxay aan leeyahay doorkii meesha aad ka tagto waxa kale hadduu soo kordha xagee ka keenteynayda taa laftigeeda waa processka koowaad laga bilaabee tii lagu dhameeyay ma aha haddaan tuugahay waxba igama qaban karta arrintaasi ku abtigeeya tu habarataya tu eedadaya aan ku wada qori waxaan rabo dhan oo iyada lafteedu fall proof ma aha laakiin waa waxyaalaha lagu bilaabo macnaha inagu systemiska adduunka la raacay lagula dagaalamo corruption aan soo qaadna mooyee intaan bilay samayno cashada la cunayo raadiyo suuqa wareega ma samayn karno qaabka lagula dagaalkamayo laakiin kow saxaafad xora oo soo bandhigta wixii la haday free media adduunka waa accountability transparency international daraasaad ka samaysay dalalka media xorta uu yahay way ka musuqiyad yihiin baa sababtoo ah qofku wuxuu qaataa la garanaya soo saxaafadii waa xore soo qora wasiirka laftigiisa soo sawir ku cunaya 15 ka aad wasiir hebel isaga macnaha ha ku noqoto kiisa ku noqoto social free media parliament oversight baarlamaan madaxweynuhu iyo dawladdiisu hadday tuugtahay baarlamaan qabta oo oversight mechanism leh oo soo eega mashaariicdii waa la sameeyey qaabkii lagu bixinayey ciddii xadday
oo ka hadli karto challenge dawladda challenge garay karta shacabka kaliya ma wax u dhaxeeya jira shacabka iyo dawladda hadda shacabkii baa banaanka joogo waxaas jira leh baarlamaanka la soo dooranaya shaqadiisa ugu weyn waxa weeye shacabka inuu u hadlo uu soo fadhiisto oversight parliamentary oversight inuu jiro executive gudihiisa mechanism check and balances oo ka bilaabmaya audit reportski si sax ah in loo sameeyo hay'adda auditka in dib loo dhiso oo shaqayso inspectionski financial managementga maaliyadda in la adkeeyo physical inspection physical performance mashaariicda in la eego nidaamyo lagu kontrolo musuqa ayaa jira nidaamyadaas kama mid ma aha in wasiirka suuqa jooga shaad nuucu xidhna kaba nuucu iibsaday in la yaa kuma jirto taa kama raaci karno indication way noqon kartaa qofka meesha fadhiya isagu intaan wax uga keen oran kara taas waa sida waan wadnaa hawlihii lagu dagaalamay musuqa si systematica waan wadnaa waxaase aan maragba doontaa oo aan beel isaga sheegin kuwa ka hadlaya musuqa laftigooda hadda maanta Soomaali hadaan nahay mentality-ga musuqa in la dagaalamay aan taacad laga ahayn ya xaqiiqa wanugna anigu waa la yimaada musuq baa xafiis hebel ka jira ma arrinta ka qabatid qofku markuu iga sii tegayo ee ku dhaaniga waan qabanaynaa cadayntii noo keen wuxuu yidhaahaa qabanin aniga igu sheeg wax igu sheeg buula aniga wax igu sheeg marka haddaan bulshana oo inaga dhabtaa inaan wax saxno political culture-ka Soomaalidu hadda aynu leenahay 10 sano u dambeysay laga sii daro mooyaane inuu yahay mid musuqa dhiirigeliya inuu yahay mid tuugta amaana inaan diidno ma inta lacagta dawladda xad orada guri dhiso villa oo ku ducee sheekh iyo shariif wixii reerkiin intuu yimaadaan bay ku amaanayaan wiileeyay ma sha Allah guriga ka dhistay meeshii walaal inaynu nacno inaynu resultigana jeclaano tuugnimada process marka lagu dhex jirana la yiraahdo hebel waxbu xadaya waa su'aal bulshahaan inaan isweydiino baahan way ka balaarintay dawladdan qabaano it's much broader than dawladda kaliya shacab ahaan aan isweydiino musuqa maxaan ka qabnaa aragti sax ah ma ka qabnaa inaan la dagaalamo inaan xalaal u noolaano diyaar u nahay social pressure ka qofka mas'uulka fuulaya ee qabiilkiisa kaga imanaya ee xaafadiisa kaga imanaya inuu qof u bardhigu yahay waxaan dawladda dad baalaho ma taaban karo diyaar ma u nahay intii halkan fadhida haddii dhab laga yahay arrinta in la xaliyo su'aalaha la isweydiiyo haddii kale waxa iska noqon doonaan political statements qofkii aad nacabta lagu turturo hebel ka qad intii isbedelku bilowday 2 sano iyo barkii waxaan maraynaa 12 cabinet members baa shaqada laga yeeyay oo la xiriira musuq badankoodu 12 baan maraynaa toddobaadkii imika u dambeeyay dhowr iyo 40 baan isku bedelo kaxaynay dad cusub baa manaanka ka keenay haddii poolka aad ka soo qaadanaysaa dadku isku mid yihiin wax badan ma hagaagayaan saa daraadeed in si objective oo ka baxsan siyaasadeyn musuq aan la dagaalano diyaar baan u nahay waxaan aaminsanahay musuqii 80% in la yareeyay yaan aaminsanahay waxa taa cadeyn waa mashaariicda la sameeyo mushaaraadkan kordhaya ciidanka la tababarayo laakiin musuqa Soomaalidu uma taqaano qofka madaxweynaha hadduu isagu qaybiyo dawladdii hore marka aan ku celinayna madaxweynuhu wuxuu maamuli jiray 4 bilyan oo bir oo isagu leeyahay waa wax la wada garanayo shirkadihii bay ku wada jiraan 4 bilyan oo bir oo lacagta dawladda ka baxsan oo jaadka iyo biyaha iyo waxa kale iyo kulli laga ururin isagu leeyahay baa jirto dadka loo qaybin jiray qofka xanuunsanaya lacag lagu siinayo ka miskiinka lagu qaybinayo this was a kingdom ma ahayn republic kingdom boqortooyo oo qofku boqor yahay oo wuxuu rabo sameyn karo aroortii yahay ta dawladda waa lagu tirfaliyay bariishadii lacagta lagu bixiyay dib baan hadda lacag ugu bixinay ka boodilay baa ka mid ah 80 milyan madaxweynaha walaalkii baa qaatay 80 milyan oo la tegay garoomadii kubadda cagta international kala dhisay lacagtooda waxa ka yaalan mashaariic inta leeg oo sadaan ugu nid meesha maanta inta cidda halkan fadhida ama baarlamaanka joogtay hal mashruuc oo la lunsaday sheegta anaga ka mas'uula laakiin qaabka qadaraaska loo bixinayo qaabka lacagaha loo kala qaadanayo financial management contract administration problem balaaran baa ka jira dhibaatadu inta la egta haddii la sheego xal baa la gaaraya haddii siyaasadeen la dhex geliyo anagu siyaasadeen baan isku difaacayna oo dawladda hore kana tiri ma akhriyayna macnaha wax xal lama gaarayo karasaasay noqonaysa haddii xal loo socdo taa weeyaan arrinta gaadiidka habeenkii ku shaqayn tagaanta waa dawladda hore hadda ku noqonayna mar kale sida ila tahay waxaan anagu soo gaari jiray dawladda hore habeenkii gaadiidka dadka lagu guri jiray waa lagu garaaci jiray xaafadaha loogu dhici jiray gidibka lagu geyn jiray haddii iminka gabdhaha ku shaqaysanaada wax soo kordho fiican weeyaan fiican weey qoysas baa ku dhismay in xalaal noqda ma rajaynayna laakiin ku tagfarka ma kaftamaya raali ka bani waa khalad cid saa u dhaqmaysan haddii xog la keeno waa ka talaabo qaadayna waa run waxa u dhaqanaa wasiiradeena iyo annaga iyo kulligeeno sidii dad xukuumad dawlad taajira loo dhaqmaa very expensive anu heedan ka shaqayn jiray shidaalka waa la kontroola log baa la sameeyaa
inaan kharashka dhinaa loo shaqeeya laakiin saa uma dhaqano dowlad ahaan run ahaan waan ogol lahay taa inaan saxnana diyaar baa shacabka ha nagu caawiyaan inta badan shacabka laftigooda yidhaahda yaa wasiirada ku yidhaahda gabadh baa iga xanuunsanaysa adeerka xanuunsanaya dardhaba iigee iyaga laftigooda way yidhahda wasiirka habeenkii gabadha ku shaqaansanaya dhib buu u arkaa laakiin inuu wasiirka ku yidhaahdo adeerkay oo sidana saaxiib baynu ahaan jirnay dardhaba iigu gee oo shidaal iigu qaad inuu ku yidhahdo dhib kuma hayso let's be consistent morally consistent aan ahaano waxa aan iyaga inay sameeyaan necabna inaguna aan diidno taas weeye arrinta meesha taalla waxa weeye kale ee su'aasha la isweydiiyey qabiil ayaa wax lagu qaybiyaa see qabiilad looga bixi karaa waan soo wada waa gradual taas qabiilka political psychology-ga Soomaalidu maadaama uu yahay dad segmentary society baa dad qabiil u qaybsama marka wax la qaybinayo hadda xilliga aan taagana waaqici ma aha in la yiraahdo qabiil baa laga baxay 12 wasiir oo isku reer ya meesha soo fadhiyo ma soconayso iyadana realistic aan ka ahaana problemka jira waxa weeye su'aalaha la soo qaadayo waa su'aalo extreme ama sama la yelo no ama sama la categorical ama sama la yelo ama qabiil ma laga dhigo ama laga daayo ma aha wax la adduunka extremisku sideedaba waa shaqooyinka dadka muxuu ahaay aan aad u ballaarin maskaxdooda mar walba wax possible laga dhex sameeyaa jira qabiil in lagu qaybiyo waxa keenaya Soomaalidu waxay u degtaa qaab qabiil markaanu kaabinayga sameeyno waxa la bilaabaa ma waxa lagu qaybinayaa degmooyin mise waxa lagu qaybinayaa gobol azif inay labadu kala madax banaan yihiin waa isku mid haddaad tiraahdo gobol waa soo qaadanaya gobolkana dhowr qabiilin baa dega waa la yaqaanaa marka inta badan doodaha dadka la dhex dhigayo aqooyahankii kala miiri lahaa ee intuu fadhiisto odhan lahaa war gobol bin haddaad gobolka city tiraahdo laba qabiil baa saddex qabiil ama afar qabiil baa degaya u badnaanaya majority haddaad gobolka nogob tiraahdo qabiil baa u badnaanaya gobolkii iyo qabiilkiina kala madax banaan yihiin sidiisoo kale ma qabiil baa lagu qaybin mise gobol no way isku dhex jiraan marka qaybtu meel walba adduunka laga sameeyo ilaa Mareykanka dawladda hadda u dhisay Biden madow ka soo qaatay hindi buu ka soo qaatay wuxuu ka soo qaatay Asian buu ka soo qaatay inclusivity-ga nidaamka in la ilaaliyo qabiil baa lagu qaybiyay macnaheedu ma aha qabiil baa lagu qaybiyay macnaheedu ma aha waxa weeye inclusive baa laga dhigo waa la balaadiyay oo dadkii deegaanka deganaa cid walba geographical iyo qabiil ahaanba waa inay ka dhex muuqdaan weey qabyaaladda iska daa marka la leeyahay qofka waxa weeye adigu il qabiil wax walba ku cabirine service oriented noqo qofka aad dhaliilayso qabiilha ku dhaliiline haddii uu shaqeynayna wuu shaqeynayaa adiga uga baahnayd hadduuna shaqeynayn ma shaqeynayde hadduu tuug yahay reerkiina yahay tuugnima ku difaacin hadduu nin fiican yahay oo reerkiina ahayna ha ku caayin way wax laga hadlo wax kala baxsan way wax isku qasan ma for some time laakiin isku laaqa qabiilka iyo wax lagu qaybinayo qabiilada dhalinyarada iyo way iska sii soconaysaa in fact dhalinyarada ay noqotay dhalinyaradu qabiilka inay dhex gasho dhex boodo waaqica jira hadda ha keeno laakiin anu eega inta aan arkay dhalinyaradii odayaasha wax lagu kala saaro ma garanayo because dawladdii baa noqotay source of income qofku marka wuxuu ku raadinayaa degmooyinkii qaab qabiil baa loo sameeyey wuxuu arkayaa 20 wiil oo isku qabiila oo degmo loo sameeyey oo mushahar qaato oo shaqeeya gudoomiyaha degmada Hebla wasiirka maaliyadda maxamed xabsaadka maaliyadda degmada Hebla arkaya wuxuu ka fikirayaa marka adu qabiilkaygii hadduu degmo heli lahaa taana waxaan ban heli lahaa waa runtood taas asaaskeeda dhibaatadii waxa weeye cadaalad darrada loo qaabka wax loo sameeyey structureska dhisan u dhisan yihiin ayaa salka ka tahay dad yoo fara badan inay degmooyin yeeshaan haydoon lahayn baa jira kuwa ay ku badan yihiin baa jira waa facts jira kuwa laftigeeda si cadaalad oo daacad in looga hadlo lama ogola by the way markaan soo qaadnana si kala loo dhigaa laakiin waxyaalaha dadku tabayaan taasaa kow ka arrinta haweenka waan ka hadalnay waan xanoo qorshaysan hadda baarlamaanka la soo xulay waan saxaynaa wixii khaldanaa waan sheegnay mar iyo laba saddex inaan ku ceebaysanahay kaalinta dumarka boqolkiiba 30 hadda baarlamaanka deegaanka iyo ilaa boqolkiiba 35 ka federaalka aan soo xulay waa haween I think xisbiyada nala tartamaya hal mid oo inta ku soo dhow ma jiro even 5% mid uu hadii la helo waan doonaa marka loo eego dadka suuqa jooga xisbiyada ku tartamaya fagaaraha siyaasadda annaga ugu roobaan oran karnaa waayo boqolkiiba 30 annaga keenay dumarkii hadda soo dhignay haddii aan ku guuleysano kaabineyga ilaa boqolkiiba 20 ilaa boqolkiiba 30 inay soo galaan way noo qorshaysan tahay laakiin guud ahaan isku difaaci mayno kaalinta dumarka waan ku liidanaa waxaana keenay qaabkii aan u soo yeegalay dawladdu maadaama qaab odayaashiga kaaba qabiilka la tashanay ay tahay sida ay u fikirto dadkeenu waad ogtihiin hadda lagu haystaa boqolkiiba 30 markaan ka dhignay reehel annaga haddaan nahay dawladdu way xumayso gabadh bay noo sharaxday hadda lagu haystaa bulshada aan ku dhex shaqeynaa horta bulshada noocaas siyaasiyiin inaan guuleysano waan rabnaa waa inaan iswaafajino de we don't want to lose haddaan idealistic noqono oo boqolkiiba 50 gabdho soo sharaxno oo nalaga adkaado doorashadii xitaa intii yareeda hagaajis lama wadi karno so pragmatism
qayb ah oo ah maxaan ku guulaysan karnaa iyo idealismkii ahaa maxaa fiican yaa isku dhex wadnaa hana loo dulqaato laakiin gaabis baa xagga ka jira same arrinta la xidhiidha xafiiska dhalinyarada dhalinyarada kaalinteeda waa dowladda badankeedu aniga mooyaane waxay u badan tahay dhalinyaro dowladda badankeedu dhalinyaro u badan tahay in fact cabashada jirta waxaa weeye rag waaweyn ama laga maarmee la yidhahdaa laakiin xafiiska dhalinyarada wuu jiraa gabadhii su-aashay weydiisay xafiiska dhalinyarada ee sportigaa jira intee lagbuwa focus la siiyo miisaaniyad ku shaqeeyo iyo wixii loo u baahnaa loo sameeyey waa su-aal kale iyo structureski laakiin wuu jiraa focal agency dhalinyarada laftigeedu tan ay leeyihiin xafiisyada dhalinyaradu adeegii loo baahnaa nama siiyaan xafiisyada kula xisaabtamaan ha soo gudbiyaan iyaga kala doodaan annagana noo keenaan gaabis inuu jiro waa laga yaabaa laakiin expectationska dhalinyarada ku jira iyo miiniska xafiiskan ha laysu eego dhalinyaradu hadday aaminto xafiiska dhalinyarada maadaamuu jiro problem kastoo aniga haysta xafiiska dhalinyarada u taalla no waa khalad xafiiska dhalinyaradu muxuu haystaa oo lacagahoo uu qaban karaa maxaa budgetkiisa ku jira maxaa miisaaniyadda ku jira in la yidhaah weeyaan marka in taana loo fikiro min wax gaabis hadduu jirana in la saxo way tahay waanuba inay jiraan gaabis fara badan dhammaantanno arrinta covid 19 laba waxaan arkayaa qaybood mashiinkii naga xumaaday hadda waa la soo bedelay muxuu idinka xumaaday muxuu baakaa u jiri waayey maxay taas ku dhacday waa goldolooli waa arrintaas annagu dhexdooda hadal uu ka taagan yahay waa khalad maxay u dhacday maxaa backup loo sameyn waayey maxaa sida annagu waan isku haysanaa dhexdooda waxaa kaloo jirta dhinaca wanaagga oxygen plant la sameeyo hadda dhammaanaysa oxygentii la soo qaadayay in halkan lagu sameeyo taas way dhammaanaysaa maalmaha soo socday dhammaanaysaa laakiin dhankaas gaabis uu ka jiraa oo goldoloolin baa ka jira ballaaran meelaha karantiilkana doorkii hore maadaama oo safku siyar nagu maray intii loo baahnaa hadda ma jirto ilaa shalay dhaqaaq baan bilownay dhakhtarkii referaalku wuu buuxaa covidkii iyo covid la'aantaas dhex socda waxyaalo badan oo goldolooyin dhinaca ka jira way jiraan ilaa saxana diyaar baan u nahay waan soo dhaweynaynaa criticismka noocaas ee validka ee xaqiiqada ku salaysan dadaalaa socda laakiin hadda in la hagaajiyo laakiin guud ahaan covidka marka laga hadlo ma mashiinkaasaa waxa aan hadda xukuumad ka gaabisay mise shacabkeennii baa baraarujinta loo baahnaa qaadan la taana aan isweydiino sida aan dowladda u kritigaraynayno shacabkan aan u kritigarayno hogaamintii iyo horjoogi waxaan nahay society-gaan nahay dowladdu mashiinkii mayna keenin miisaaniyaddii loo baahna mayna u qabanin isbitaaladu way isdhex yaallaan okay shacabkiisa 24 hour wasiiradii way hadlayaan 24 hour dad culummadii waa lala hadlayaa waxaa lagu kari leeyahay maaska xidha afka intaad xidhataan cudurkani waa riil shalay laga bilaabo anigu 5 qof waan aqaano shalay keliya yaa la ii soo sheegay haddaan sii eegana sii baarana kuwa kalena waan ogaan lahaa dadkii in loo sheegay laftigeeda oo idinku aqoon-yahankii baa tihiin the best part of the society inaad la hadashaan iyo wariyaashii oo shacabkii baraarujisaana ku dara daliisha dowladda taas ha barbar socdo daliisha shacabka imikadan waxaan ugu baaqaynaa shacabku cudurkan waa cudur jira waa halis ha is ilaaliyaan taxadarkaa ka muhiimsan waxaan ka sheekayno dhan taxadarkaa ka muhiimsan tiina waxaad moodaa gaabis inuu jiro markii aan damacnay inaan xakamayno in dadaal samaynana xagga shacabka laftiisa cabashooyin baa ka yimaada markii habeenadii iyo karfigii iyo lasoo rogay bandowga ahaa cabashooyin baa ka yimaada iyo hoteeladii meheradihii iyo marka waxa ugu weyn waa baraarujin weeyaan shacabku attitude change loo baahan yahay keenaan ceelasha shidaalka maxay idinka qorshaysan maxaad rabtid in looga qorshaysnaado way su-aashu ceelasha shidaalka waxaa maamula dowladda federaalka maamusha roolka dowladda federaalku ay leedahay iyo kaana way kala qeexan yihiin wax dhaqdhaqaaq oo hadda socdo oo aan ognahay ma jiro accesskii hadda ka hor loo lahaan jiray ku ka badan waan u leenahay shuruucdii lagu maamuli jiray waxbaa laga bedelay shalay lama ogeyn waxay yihiin maanta 50% baa baarlamaanku ansixiyey in deegaanku uu leeyahay walow still dadka raba inay dowladda wax ka sheegaan ay ka dhaadhacin arrintaasi oo haddaad u soo qaaddo baarlamaanka declarationkii iyo shirkii lagu galay kulli waa been social media uu keenay inuu qof iska fadhiya meel uu iska yidhaahdo lama hubo arrintaa iska yidhaahdo maadaama halka aan marayno laakiin 50% waa laga dhigay environmental impact assessmentskii iyo loo baahna hala sameeyo waa la yidhi issue jira hadduu jiro oo ku saabsan arrintaa shidaalka hanaloo keeno waxbaan ka qabanaynaa laakiin hadda as we speak investment badanna kama socdaan wax dhaqdhaqaaqiina kama jiro arrimo la xiriira caafimaadka oo laga hadlayna waan address garayna waan ka hadalnay shacabkiina waan la kulannay haddana waxaan u soconnaa in royalty lacag la yidhaah oo kooban oo ah lacagta shirkadaha baaraya ay soo qaadaan wixii la hayay intaan sidii la xisaabtano dowladda federaalka dadka aagaas jooga inay ka faa'iidaan oo iskuulaad loogu dhiso oo jidad loogu dhiso oo ay arkaan benefitkii ama faa'iidadii khayraadkan u lahaa ayaan ku jirnaa laakiin xaaladaha guud ee dalku maadaama hadda focusku xagga amniga u batay nooma suurtagelin annaga laftigano inaan sidii loo baahnaa aan uga madhalino laakiin waan daba soconnaa arrinta doorashada gobolka uu ka hadlay liibaan
war kama hayo inay jirto arrin ballaaran oo noocaasa waxaan aaminsanahay markii doorashada registrationka la sameynayay qaybtii hore cid kasta inay cadanaysay aniga kula hadlaya waxay igu qaadatay hal saac ku dhawaad inaan register gareeyo dadkii la tartamay 20 daqiiqo lagu register gareeyay in fact anagu cabashooyin badan baan qabnaa dad baasaboorro dibadda haysta oo la register gareeyay oo election board kan ku karlaanay ka saaraa jira ilaa iyo hadda cabashooyinkii aan qornay ninka hebel la yidhaahdo awrka u tartamaya ama xisbigan uu ku jiray oo dowladdan uu ku jiray ama mucaaradka ayuu ama baasaboor dibaddu haystaa oo ma tartami karo sharciyan ama meeshu iska sharxay uma dhalan sida sharciga uu sheegay ama inuu u dhasho ama inuu 2 sano ku noolaadahay lagama soo jawaabin cabashada mucaaradku qabaan mid afar jibaarkeeda ayaan qabnaa anagu go'aano fara badan oo ka suganayna maanaan helin taana dhaliisheeda anagu ma yeelanayna haddii la register gareyn waayo golo maamulaa jira doorashooyinka golaha doorashooyinka waa loo tegey shalay meedar waxaan isweydiinaynay xildhibaan dadkii is-register gareeyey ee nala tartamayey annagu ku ogeyn 150 unbaa arood soo toosanaya oo 250 iyadoon la furinba maalinkiiba wuu ogyahay musharaxa hadda ay weydiiyey in toddobaadkan lagu soo daray dad aad u fara badan oo musharaxiina oo waqtigii uu furnaa tartanku aan ku jirin in lagu soo daray waa ogtahay marka ilaa iyo hadda hal meel oo gacan bidixin lagu sameeyey waxaan ognahay qabar bayax oo kale ururadii mucaaradka qaar ka mid ah habeenkii loo furay oo la register gareeyey waan ka dacwoonay inta annaga nalii way dhamaatay saacaddii kuwa xisbiga ah weliba meelaha qaarkood la isku dayey mas-uuliyiinta dadka in wax laga daadsado maadaama lagu tuumeeya lacag ba haystaan kuwa kalena loo furiyey habeenkii yaa dhacaysay marka waa cabasho guud ina khusaysa laakiin meel hadda lagu caburiyey dad tartamayaala oo wax lagu diiday anigu ma ogi saasay tahay ma odhan karno marka doorashada la galo tacadiyi iyo afduub iyo meelo dad gacan bidixeeyi iyo ma dhacayaan lama odhan karo iska daa halkan ee doorashooyinka ka dhaca maraykanka iyo meel walba goldololooyin eedaa ka bilowda marka innaga laftigeenu yaynaan dee waaqac aan sax ahayn ku fakirinoo muxuu ahaa sidii inagoo electronic machine guryaheena fadhinoo tataabanoo kale dad baa waxaan maamulaya qaab ay u shaqayn jireen baa jira khaladaad baa dhacaya taa ayaa la odhan mar walba xukuumadda ayaa ka dambaysa wixii khaladaad inaan saxna diyaar baan u nahay guddi doorasho oo adag oo isku dayaya inuu doorasho xor iyo xalaal qabtana wuu jiraa runtii oo dowladdu anagu aan ka cabanayno habeenii maalin wuu jiraa baan isleeyahay arrinta deegaamada aan jaarka nahay maxaa idinka qorshaysan waxaa noo qorshaysan wixii tabartanada inaan dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan aan adeeg gaarsiino ammaankooda ilaalino labadaas anagana saaran adeeg intaan ka rayn inaan gaarsiino tartan deegaamo kale lama geli karno 200 milyan bay gelisay Oromiya gobolka Daawo 200 milyan geeyna ma karayno anagu lacagtaan hayno waxaan u qaybinaynaa 12 gobol si cadaalad ah ugu qaybinaynaa intii aan karayno wixii aan isleenahay waxa adeeg gaarsiin kara waan wadnaa dadaal fara badan waa laga qabtay gobolka Daawo oo jidadka la xidhiidha oo guryo wadaarka la xidhiidha oo adeeg bixin la xidhiidha oo gaadiid la xidhiidha waa laga qabtay ilaa iyo hadda iyo waliba amniga shacabka in la sugo intaba xukuumaddu ay ka qabatay waxaan umaleeyaa inuu ka maqnaad kacayo sharaxaas hadlay intaasaan kusoo koobi lahaa arrinta xafiiska dhalinyarada ahayd tii u dambeysay tii horaan raaciyey mahadsanyihin madaxweynuhu mahadsan yahay weliba koobidii baynu isku dardaaraynaa madaxweynahana markaanu ka codsan si waqtigu maadaama uu gabagaba yahay uu su-aalaha dambe inuu soo koobo insha allah idinkuna waad farabateen marka hore dad badan siin salaanta markaan ka yimaado waxaan doonayaa 3 su'aalood inaan ku weydiiyo su-aashayda koobaad waxay la mid tahay su-aalo dad badan bay u taagan aad u koob su-aashaada okay su-aal keliyana ka dhigo meel bay gadhig su-aasheedu waxay tahay xarumaha farsamada gacanta lagu bartay deegaanku aad bay u badan yihiin miisaaniyadda dowladdu ku bixisana aad bay u badan tahay ardayda ka soo baxda meelaha farsamada gacanta lagu barto aad bay u badan yihiin wax qabad ballaadhana lagama arko miyayna ahayn siyaasadda ku wajahan ama qorshaha ku wajahan xarumaha farsamada gacanta lagu barto in dib loo eego waa su-aasheeda koobaad su-aasheeda labaad waxa weeyaan hay su-aasheeda labaad waxa weeyaan elsiga iyo kontrabanka magaalada jigjiga isku qiimaa lagu iibiyaa hadduu sokor keeno hadduu bariis keeno hadduu daqiiq keeno isku waxbaa lagu iibiyaa miyaysan ahayn la kala bedelo iyaga laftooda assalaamu calaykum waxaa jira santaro hoostaga degmada Wardheer oo goob doorashooyinkoodii laga tagay oo laga guurayo ilaa 12 goob doorasho ah marka madaxweynuhu bal waxaan weydiinayaa haddii uu og yahay arrintaa bal waxay ku dhacday haddii uu soogayna bal inuu ogaado wax ka yiraahdo su-aashaydu horta waxaan ka mahad celinayaa nicmada ah in aan hadli karo xorriyatul qowlka
iyo amniga iyo nabadgelyada roolka ay dowladdu ku leedahay waan ka mahad celinayaa waxa fiicanna waa in la sheego waxa dhaliil ahna waa in la sheego waxaan ku soo noolayn waxaan ka sheekayn karra maaha 30 sano 28 sano la soo dhaafay iyo 100 sano la soo dhaafayba marka inaan halkan isugu imaano hadallo ilaahay baa mahad ku leh xukuumaddu roolka ay ku leedahayna way ku mahadsanta waan buuxnaa waqtiguna wuu yar yahay marka hal arrin oo bal say dhibku u kala badan yahay waxaa jirta deegaankeenna deegaan aad u ballaaran weeye referral hospital jigjiga dhakhtar u ah waxyaalaha kale waa waxyaalaha emergency-ga ah waxyaalaha gobollada ka jira iyo waxyaalo yarar bay qabtaan marka halkan la imaado dhakhaatiirta noo joogta qowmiyadaha kale oo xataa qaar waxaan ogaa macallimiin haramaayo ka imaada 2 maalmood ama 3 maalmood oo 120 la siiyo dhakhaatiir Soomaaliyeed oo specialist ah way yar yihiin hadda dawladda kuma bilaam garaynayno waa wax horay u soo jiro soo yaal hal dhakhtar in la sameeyo oo specialist 10 sano qaadata iyo ka badan 12 sano qaadata dawladdu eed kuma laha laakiin hadda maalin dhaweyd imtixaan baa Ethiopia laga sanadka hore imtixaan baa la qaaday ilaa 2800 oo dhakhtar baa gashay takhasus inay u xarooto Soomaali kuma jirin qof Soomaali kuma jirin sanadkan hadda bishii tagtay 7,000 oo dhakhtar baa xarootay oo imtixaan gashay electronic oo aad u badan oo 200 oo su'aalooda sodomeeyo dhakhaatiir Soomaaliya ka qayb gashay laba waxaan u malaynayaa successfully u heshay laba dhakhtar Soomaali ah tobaneeye baasay baa jira oo fieldigay rabeen aan helin jaamacadeena jigjiga laba fieldi ba hadda laga furay oo general surgery iyo internist ah waan soo koobaya marka waxaan effort ku bixiyay inaan xukuumadda la xiriiro laba wasiir ku xigeen oo madaxtooyada abaan la xiriiray wasaaradda caafimaadka laba wasiir kala xiriiray ku xigeen waxaan la xiriiray referralka waxaan la xiriiray hogaano iyo maaragtay madaxa xisbiga markii dambe federaalka madaxa xarunta dhexe xisbiga madaxiisu wuxuu ii gudbiyay wasaaradda caafimaadka bal at least ardayda baastay ee Soomaalida ah ee dhakhaatiirta ah ee referralkan joogto hadday waayeen fiildiyaday rabeen oo dhibcahoodii ay ku waayeen maadaama 7,000 iyo dhowr boqol oo arday la tartamayeen in maadaama jigjiga xataa ay laba fiildi furtay bal at least inta baastay ee dhibcahoodii fiildigay rabeen ku waayeen laakiin fiildiye ayna rabin helay dawladdu hadday hal warqad qorto automatically waa la aqbalayaa waxaan gaarsiiyay wasiirka xiriirka federaalka u qaabilsan madaxtooyada baan gaarsiiyay ilaa 8 madaxda deegaanka abaan kala xiriiray markii dambe magacyadii wasaaradda federaalka ugu gudbin maadsantahay madaxweynuhu ku fahmay su'aashaaduna way caddahay yani maxaa laga qaban karaa dawladdu hal warqad ah oo madaxweynuhu ama xukuumaddiisu ay qorto ayaa maanta lagaga soo jawaabi doontaa iga raalaha uu fahmay madaxweynuhu adigoo maadsan iga raalaha hal daqiiqo igu dar waxaan rabaa madax baarlamaankii federaalkeena matalayay 5 sano la soo dhaafay hal maalina gacanta intay taageen Soomaali waxaasa ka maqan mayna dhihin eeda idinku ma lihidin hadda ma sharaxdeen xildhibaano garanaya ragay hortagayaan iga raalahow wariye iga raalahow xoogaa waxba wax fara badan baa naga dhex guuxayay hal daqiiqada arrinta baaxad weyn okay hal arrin aan ku darsanaya iga raalahow hal arrin aan ku darsanaya xeer hoosaadkii BB qodobadii aan markii la asixinayay soo bandhignay nugu gabood falka ahaa saddexdii ugu waaweyneed wax ma laga qabto wax ma laga bedelay mise sidiisiba ku socdaa waad mahadsantiin bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Fatxiye Axmed Maxamed waxaan weydiinayaa madaxweynaha hal su'aal madaxweyne inta badan hogaamiye kasta oo soo maray DDC waxa ku adag inuu soo saaro ama uu barbaariyo hogaamiye siyaasadeed oo shacabka hogaamiya adiga ma ku qorshaysan tahay inaad soo saarto hogaamiye mustaqbal kuna yeesho siyaasadda deegaanka Soomaalida magacaygu waa Khadrid Juriil maxamed waxaan leeyahay maadaama uu yiri inamada ka badan hablahana la siiyo waa fursad kaliya ay maanta habluhu heleen inay madaxweynaha su'aal weydiiyaan sababta markaana lagu badiyay maxamed waxaan la yaabin dhalinyarada deegaanku ay leeyihiin hana la siiyo waa taasi haddaan su-aashayda hore u galo mudane madaxweyne waa maalintii ugu horreysay ee fursad ku helaan hablaha deegaanku ma haysano xafiiska dhalinyar ahaan iyo xafiisyada kale dowladaba programyada aan rabno inaan ku qabsano deegaanka cid naga taageerta maxaa qorshe kaaga yaala wasiirada dhalinyarada iyo wasiirada kale deegaanku waxay fursad siiyaan inamada
ma yaalaa qorshe kaaga yaala hablaha iyaga jecel inay barnaamijyo ama brograamyo si ay ula tartamaan dhalinyarada kale deegaanada kale Soomaalida ku sugan ama caalamka waxaanu jecelnahay fursadahaas inaan ka faa'iideysano hal su'aal oo kale Maxamedow may hal su'aala hay aad baad mahadsantahay way isbarkan tahay magacaygu waxa weeyaan Mustafa Cabdullaahi Xasan Mustafa Riyaale kamida aqoonyahanka deegaanka waxaan jeclahay su'aashaydu ay tahay labada su'aalood midna saxaafadda ku saabsan tahay midna waxay ku saabsan tahay maskax dhiska ta saxaafadan ku horeynayaa madaxweyne waxyaabaha ugu muhiimsan isbedelka kadib ku faano waxa kamida xorriyadda hadalka saxaafadda iyo ganacsiga dhawaan deegaanka sidna Soomaalida bishii ugu dambeysay kaliya waxaa la xiray ilaa 3 saxafi oo maaragtay caasimadda gobolladaba ah sidaa daraadeed su'aasheedu waxay tahay sidoo kale shirkii ugu waan su'aalaynaya shirkii ugu dambeeyay ee dhalinyarada saxaafadda madaxa bannaan waxaa loo diiday inay duubtaan khudbadda madaxweynaha iyadoo lagu macneeyay sida noo sheegtay warbaahintu in ay amar madaxtooye yahay marka su'aasheedu waxa weeyaan wixii aynu ku faanaynay miyaana ficilada caynkaasi hadday mar dambe inagu soo bataan inagu soo noqdaan daawacid karin weeyaan madaxweyne su'aashaas magacaygu waa Cabdikayd Axmed madaxweynaha iyo TV-ga Man TV waan uga mahad celinayaa barnaamijkan ay noo qabteen su'aashaydu waxa weeye madaxweyne marka laga hadlayo institutional building iyo service delivery ama dhismaha nidaamka dawladnimo iyo adeeg bixinta bulshadu ma dareensantihiin in xukuumadda ay aad u hooseyso oo tusaalahan hadda degmooyinka u dhaadhacdid xafiisyada degmooyinka oo kale looba yaqaana one man office oo structure iyo nidaam macnaha qorshe ku shaqeynaya una ka jirin oo marka ninka madax xafiiseedka kaliya to xafiiska oo computerkiisaas ku wato markuu ka tagan wax soo reebo ka hadha ayna jirin dhinaca adeeg bixinta bulshada maanta haddii aan u baahdo inaan taysara mustawaqiye qabalahan ka qaato ama liisan gaari oo kale aan soo qaato waa qasab inaan ama qof garanayo ama laalushan bixiyo marka nidaamka waxaad ku mashquulshaan inta badan mashaariicda waaweyn sida jidadka waxyaabo noocaas ama arrimaha siyaasadda adeeg bixintii routiinka ahayd iyo dhismihii nidaamka dawladnimo ee heer hoose bulshada gaaraya maxaa idinka qorshaysan ta kale waxa jira hay'ado institutiono federaal oo deegaankeena ku yaala sida mabrad haylka ama electriga iyo telecommunicationka iyo wixii lamid ah dadka ka shaqeeya 80% waa qoomiyadaha kale sababta Soomaalidu uga shaqeyn weyday maaha aqoonnimo iyo competency-ga heer inay gaari waayeen waxa weey luqadda baariyeera marka ugu horeysa booskii waxa lagu soo dejinayaa Amhari imtixaankiina Amhari baa lagu qaadaya curriculum-kiina waxa lagu soo baranayaa luqadda English-ka ahayd marka bal miyay u baratami karaan marka miyayna is dheereyn macnaha halka cadaalad darro miyayna ka jirin aad baad maadsantahay waan soo koobayaa su'aalahan maadaama dadku inay waqti u helaan kuwa kale inay weydiiyaan xarunta farsamada gacanta ama TVET-ka istaraatiijiyadda in dib loo eego miyayna habboonayn way habboon tahay aan qaba anigu dhaliilaha aad sheegtay iyo kuwo kale oo laga yaabo inaadan ogeyn oo fiildiga dadka xeeldheeraasha ay og yihiin ayaa jira dhanka tayada iyo dhanka focuskaba dhibaata ka jirta waxaan soo qaadan karnaa hadda waxaa la dhisayaa TVET fara badan macdiyada farsamada fara badan waa la dhisayaa jira kuwii horena half capacity bay ku shaqeeyaan qaar baa ardayda in lagu xareeyo ahayd 20% ku jiraan qaar baa 30% ku jiraan marka whatever disincentive oo jira oo la xidhiidha arrinta in dib loo eego hadda waxaan isku qarcinaa kuwan la dhisay khasaare ma aha oo waxaan samayn doonaa nursing at least nursing oo kale oo ah field mar walba shacabku markuu bataba loo baahnaan doono inaan qaar badan u bedelo laakiin arrinta farsamada gacanta ku saabsan macdida ku saabsan in dib loo eego istaraatiijiyadda oo weliba shaqa abuurka lagu xidho doodaas way socotaa waa loo baahan yahay dhibaatana ka jirta LC-ga iyo kontrabanka qiimahoodu hadda LC saasoo macno loo jiraba mooyaanu oo LC-yadii in hadda istaageen baan yaan moodayay marka kontraban iyo LC waa isku qiimo arrinta bal xafiiska ganacsiga wixii xoogay dheeraada inuu shacabku u soo bandhigaa fiicnaan lahayd laakiin waxaan ogahay deegaankeena meelo fara badan oo kamid ah shacabku waxa asaasiga ay ku nool yihiin waa waxa uu uga imanaya meelaha kale marka taa laftigeeda waxyaalaha daruuriga cuntada kale iyadoo boqolkiiba 50 shacabka deegaanku uu ku nool yahay baa qoodin uu ku nool yahay oo poverty levelku aad u sareeyo haddana waxyaalaha ka imanaya meelahaas oo kale inay LC-ga iyo waxa ay ku yimaadaan in kale qiimahaas un baa muhiim qiimaha hadday isku mid yihiin which means waa isku area tii uu marka hore la weydiiyay sicir bararka in ba xiriir la leedahay oo
haddii qiimaha ama RC-gu ama kan kale ku imanaya suuqa ka iibsanayaan inagu dee kontrabaan inuu soo galo ma ogolin laakiin haddii uu isku mid yahay dee waa in arrinta sicir bararka lagu noqdo dadkii qaali buu ku yahay hadday su-aashu tahay inay ku noqdo ma waa in wax laga qabtaa xalka waaraya waxaa weeye in dadku waxay cunayaan soo saartaan saan kuu sheegay mustaqbalka laakiin hadda wixii dhiraandirin la samayn karo in lasii sameeyo weeyaan gobodorashooyin wardheer laga tegay baa jira gabadha i weydiisay xogta anigu aan hayo gobodorashooyin laga tegay ma jiraan xogtaan hayo waxaa weeye inay jiraan gobodorashooyin lagu daray oo dheeraada oo aragtida shacabka ay tahay si balansida looguma darin marka gobodorashooyin hore oo jiri jiray oo laga tegay ma jiraan wardheer laakiin waxaa jira gobodorashooyinka hore jiri jiray oo dadkuna qaab qabaa'il bay u kala degaan meelana kuwa horla lagu daray oo fara badan meelana waxba laguma darin cabasho noocaasaa jirta oo shacabku ay keeneen waan ku guda jirnaa qaabkii loo xalin lahaa laakiin way jirtaa arrintaasi in saas shacabku u cabanayaan arrinta dhakhaatiirta soomaalida ku saabsan waa arrin iska rutiina xafiiskii aad keentay baan ka dabagelaynaa wax walba oo dad soomaaliyeed wax u taraya warqad ma inaanu raacno iyaga laftigooda aan diyaar u nahay onaad saba u raacno warqad waa sahli laakiin xogtoo dhammaystiran inaan ogaano weeyaan laga yaaba saa usoo dhigtay si aan ahayn hadhow inay nooga hor timaado oo la yidhaahdo saa iyo kritisaasaa la raacay in la yidhahdo waa laga yaabaa laakiin diyaar baan nahay haddii gaabis uu jirana dee waa in ciddii arrintaas samaysa aan weydiino arrinta ardayda baaste waan ka hadlay xildhibaano federaal ma sharaxdeen oo xaqa soomaalida u dooda waxaan is leenahay markii la xulayay xildhibaanada guud ahaan aragti ahaan wixii aan lahayn haa way u doogi karaan baan ku qaadanaynay waxaa koo ka mid ahaa inay luqadda federaalka garanayaan oo language barrier una abuurmin oo markaa discussionka socdo hadduu qofku la soconin dee wax badan ma odhan karo marka taa waan eegnay heerkooda aqoontu inuu masters gaarsan yahay waan eegnay dadaan dadka dhibaatayn inay yihiin oo ama danqasho hadda ka hor buushin jirin waan eegnay laakiin taa macnaheedu inta la diray 23 xildhibaan ee aan soo qaadanay ma kuwii wadanka deegaanka jooga ugu fiicnaa dadkii ugu fiicnaaba not necessarily qaabkii aan u gelinay tii baan ka hadlayay baa ugu horeysay deegaameynta hayd baa caqabad noqon kartaba nin fiican oo wanaagsan oo meeshii geyn karto laakiin isbalansigii jiray awgeed uga harayaa jira marka ma odhan karno dadka fiican banaanka ma joogaan laakiin dadka hadda aan dirnay waa improvement aad u fiican ayaan isleenahay وهذا شعب كديان كصوماليتنا iyaga kaliya uma taalo baarlamaanka deegaanka u taala xukuumadda deegaanka u taala xisbiga deegaanka u taala caburiskii shalay jiray iyo cabsidii guud ee keenay baarlamaan leedahay maaha odayaashiina u hadlooya shacabka cid kale daawo marka wixii shalay jiray uu kuwana lagu cabira maaha hadii boortka space ku hagaago dadku iyagaaba hadlan iminkana way hadladaan oo ay muuqataa xerosadadii PP kuwa yihiin ma garanayo waxaan ogahay xisbiga PP wixii aan waaga ka codsanay ee ahaa in Soomaali PP uu deegaankiisa uu madax banaanaado taladiisa in qaabka xisbiga loo dhisayo ee ah in hal xisbi oo dalka gudihiisa national party la samaynayo inuuna undermine garaynin federalismkii jiray intaba waan isku raacnay laakiin mid baa meesha taala formatka la samaynayo ama xisbiga ama dawladda waxa ka muhiimsan qaabka loo shaqeynayo dastuur baa jiray Ethiopia oo ogtahay xisbiyaa jiray madax bannaan oo la kala yidhaahdo xisbiga dimuqraadiga soomaalida xisbiga OBDO xisbiga maxaa baa jiray laakiin ma waxaad aaminsan tahay xisbiga IBRDF inuu ahaa xisbi aan hal baarti ahayn hal baarti waa hal nin baa xukumay malas baa xukumay ra'iisul wasaaraha xukumay hal go'aan uu isaguna gaarin hal digaal lagama fulin jirin it was as centralized as anything you can think of marka in shalay wax jiray maanta la baabi'inayo kale dadka u dhigaya waa fahan daro laakiin shalay wixii jiray haddana si kale inuu ku iman hadii la leeyahay waa sax dadka laakiin qaar ba fahan daro ku dhacaysa oo oranaya xisbiyadii kala gaargaarka ahaa ee Jarmanada lahaa ayaa la baabiyo hal xisbi baa la sameeyay xisbiya kala gaargaar ma jirin IBRDF 27 sano qaab coalition meena u shaqeeyeen qaab hal party ay u shaqeynayeen hal maalin laba xisbiyo ka tirsan go'aamada isku diin ilaa iyo intii qacdo ku bilaamay lagu kala tagay so sometimes it's good structureska qoran iyo waxyaalaha qoran formatka iyo practice-ka in la kala saaro oo practice xoog la saaro waa muhiim dhalinyarada hogaamin siyaasadeed in soo saarto qorshe ma kugu jirtaa haaway nagu jirtaa waxaan aaminsanahay inaan dad far badan aqoon leh oo deegaanka hogaamin kara oo anaga aan nolol baahnayn haddaba ay ku jiraan nidaamka kuwa horlana inay soo galayaan marka baarlamaanka cusub ay soo galaan intentionku hal shakhsi oo successor ah ma la sameynaya haday tahay
hal in la sameeyo waxaa ka fiican in 20 30 succession sameyn karta dadka aaminsan anigu ma yihi waxyaalaha la yiraahdo indispensability syndrome ama yaan laga maarmin qofka laga maarmayo hebel hadduu ka baxo see la yeelaya dadka aaminsan ma yihi saaka haddaan xilka ka tago beri aroortii dad xilka wadi karo wanaagsan inay joogaan baan qabaa oo laga yaabo waxaan ka shaqeeyo wax ka fiican inay wadi karaan marka I think dadaalkaas ugu jira successionka saxda ee plankuna waxa weeye any good leadership waa in succession plan yeesho inuu successionkaasina inuu jiro team laga dooran karo oo baarlamaanka soo socda 20 qof 30 qof oo madaxweyne noqon karta inay ku jirto iyo kuwa maarad ka badan inay jiraan ma qaba hadda laftiisa kuwa maan ku jira marka dhibaatooyin xaga kama jirto dad tayalo ka ilaalinaya systemka ma jiro waxa ugu muhiimsan waxa weeye dadka tayada in la attract gareeyo systemku soo urursado weeyaan intii la karayo dhalinyarada barnaamijyo ma haysan cid naga caawisa waan haynaa waxaan qabaa dhowr cisho ka hor hoolkan aan ku jiro Somali Youth Summit baa ka dhacay I think kaas baa xafiiska dhalinyarada baa caawiyay xalay cashaan u sameeyay dhalinyarada they were effusive about the macnaha xafiiskaas amaantoodu xadka ka baxsanayd sidii loo gacan qabtay sidii ay sameeyeen in comparison meelaha kale xalay tolo ahayd marka way jiraan haddii aad ula timaadeen oo la idin sameey waa in la xaliyo diyaar baan nahay haddii capacity-gooda hooseeya kor loo sii qaado loo baahan yahay laakiin haddaad barnaamijyo keentaan annagaad noo keeni kartaan xabsiyada u geyn kartaan waad la wadayna waan rabnaa barnaamijyo noocaasa arrintaa ku saabsan saxaafadda la xidhay 3 suxufi baa la xidhay ma ogi anigu laakiin saxafi lama xidhi karo wax la yidhaha ma jiro adduunka ama saxaafadda xorta waxaa lagu cabirayaa saxafi la xidhay oo ama la xidhin uma aqaanun saha saxafigu shacabku ma la mid yahay shuruucda u taalla hadduu ka xadgudbo waa la xidhi anagu iyadoo sidaa tahay ma xidhinba hal saxafi oo maanta xidhan baa jira ma qabaanu way jiraan dhalinyaro la ii sheegay maalin dhaweeytay in laga reebay entourage-kii madaxweynaha in laga reebay muxuu ahay saacado kooban su'aalo la weydiiyey xaq baa lagu leeyahay because suspicious activity baa meesha ka yimid qaab dhaqan aan saxafi ahayn oo amni geli kara ayaa meesha iman kara marka qofka saxafiga access-ka u hela hoolkan oo kale inuu soo galo mas'uuliyiinta u yimaado mas'uuliyadda in la ilaaliyo anaga naga saaran mid leeg baa isaga saaran dhalinyaro kaamerooyin wata meel laga soo diray la garanayn waftigii ay la socdeen dhinacna ka duubaya dhinaca propaganda isla daqiiqadii social media ka gelinaya kuwaasoo kale deenna raacan maaha uma diidayno propaganda laakiin isagoo annaga naga socon ha qoro waayaan u fududaynaa inuu propaganda naga fidiyo ma cid saa ogol baa jirta halkan fadhida gurigiisa iyo computerkiisa iyo hotelkiisa laguma tegay halkaa ha fadhiisto dowladdu biyo la'aan iyo jirta biyihii bay cabaysaa kanay samaynaysaa waxa ha qorqoro laakiin inuu entourage-kii madaxtooyada soo raaco oo gaadhigii madaxweynaha la socdaa halkaasaan taagannahay islaan gaajaysan baa halka agteeda maraysa isagina waxa inuu qorqoro dee annaga ma rabno saxna maaha looma diidan waxa inuu qoro laakiin access-ka uu helaya privilege-ku abuse garaynaya hadduu abuse gareeyo waa laga qabanaya dhaqanka saxaafadda ha ilaaliyaan cid loo diidaya ma jirto inaan encourage garayno suxufiyiin waan rabnaa laakiin suxufiyinnimada laftigeedu shuruucda iyo qawaaniinta iyo akhlaaqdeedii inay yeelato waa muhiim by the way miidiyaga saxaafadda xorta ee sharci Itoobiya u haysta inuu ka dhaqdhaqaaqo deegaankan ugu yaryahay maba jiraan waraaqaan hayna hadda la soo qoray federaalka laga soo qoray ka joojiyana leeyahay waan ku casumi karnaa inaan intusno kuwa register ma aha leeyahay waan iska daynaa because anaga inoo ficnin in hadda leeyahay saxaafaddii baa la xidhayaa maxaa la xidhayaa ta kale kuwa aan weli register noqonin oo hadda ka dhaqdhaqaaqoon ogolahay baa jira oo TV ka socda marka ma qabo inay fair tahay xukuumadda la yiraahdo saxaafadda ay caburinaysa anagoo og inta aan access siino saxaafadda madax badan khudbadii waa loo diiday waa loo ogolaanaya markii anshaxa saxaafadda ay iyagana laga arko dhibaato male xilligan doorashada waxaa jiray saxafiyiin xitaa dad musharaxiin mucaarad ay soo dirsanayeen oo raadinayay inay helaan waxyaalaha hadhow toole ay ku ceebayaan nidaamka jira hadday jiraan mas'uuliyiin meel isku afdhaafaya hadday jiraan mas'uuliyiin wax isweydiinaya hoose inay ka duubaan waxyaalaha raadinaya baa jira oo dhognahay oo intelligence report aan ku helay kuwaasoo kale agtana ma soo marayaan insensitive institutional building and service delivery inuu hooseeyo ma aaminsan tihiin absolutely wuu hooseeyaa ma ahe waa zero wax su-aali kama taagna institutional building laakiin laftigeeda ma isla fahansannahay mise kelmadoon baan qaadannahay waa su-aashu sometimes macnaha institutional building waa institution waa maxay marka hore dhowr jeer waan ka hadalnay institution waa dadka waa personeelka xafiiska qofka joogaya waxa weeye shuruucda rules sharciga meesha ka jira loo hoggaansamayo third element of institution waa behavior saddexdaa weeyaan
innaga dadkiina ma hayno xafiisyadii dadkii saxda ma joogaan hadda waadheed waxaa la saaray kun qof oo forjira 1000 civil servants oo forgery haysta which means waxaan waxbaan ugu adeegi leeyahay maba yaqaano wey kun baa laga saaray bilow fiican baa jira haddadan waxaa la qabtay imtixaan lagu xulanayo dhalinyaro finance administrationka si fair u dhacday jaamacad baa qaatay 15 ku kursaa la qaatay kolkaanu eegnay dadkii taariikhda dib u eegnay dad perfect ay noqdeen laba walaalaha ku jira two brothers baa ku jira oo imtixaanka ku baasay oo la soo geliyay I think haddaan la in the train institutional building in loo dhaqaaqay xafiiskii shaqaaleynta CPA shaqo fiican u hayo way muuqataa laakiin institutional building wuxuu ka bilaabmayaa maaha aroorta la soo tooso amar la soo saaro dawladdu maanta laga bilaabo xafiisyada waa in la galo la shaqeeyo ama culture-kaas inuu abuurmo waxay u baahan tahay dadkeedii in la helo shaqadii shaqaalihii in la iswaafajiyo nidaamkii behaviorkii shacab in public service-kii dadka uu gala maskaxdeeda qof aroorta u soo kalaya xafiiska haddii maanta lacag laga saxiixayana waan tegaya haddii kale ma tegayo way adagtahay inaad in laga raadiyo institutional building macnaheed institutional building also takes time iska daa mid la burburinaya sidii deegaankeena oo 10 sanadood la burburinay intii jirtayba kuwii la dhisayay dalka Ethiopia waa la dhisay lahaa maanta waxa la isku raacsan yahay Addis Ababa TPLF intii ay joogto soddonkii sano in institutional building-kii lagu guuleystay aan lagu guuleysan yaa la aaminsan yahay taqaamaad altagana bum baa leeyahay Addis Ababa la fadhiyaa we have not built any institutions baa leeyahay so what do you imagine markaad eegto deegaan hal qof uu joogay aroorta ninka meesha fadhiya soo bax gal sii soco kaalay hebel ay ku jirtay institution inuu hooseynayo waa la garanayaa laakiin institutional building maxaa laga qabtay baa la isweydiin karaa waxaa laga qabtay kow in dadkii shahaadooyinka khaladka haystay laga saaro in dadkii la aqoonta lahaa inay korka soo maraan lagu dadaalo in imtixaanaad laga qaalo in qaraabakiilkii xafiiska CPA ka socotay wixii la yareeyo in dadaal badan la sameeyo waa loo dhaqaaqan qabnaa dhalinyarada degmooyinka gobolada ku qoran hadda way ka aqoon badan yihiin kuwii hore ka fiican yihiin maaha in aqoontii la raadiyo leeyahay mashaariicda haysataa waa institutional building waa the starting point marka waa loo dhaqaaqan qabaa laakiin way hooseysaa aad bilow ma la oran karaa service delivery-guna of course xagga adeeg bixinta goldolooyin badan baa jira waa aad u ballaaran kuwaana waa waxyaalahan anagu qirsanahay hadda inaan weli halkii loo baahnaa laga gaadhin in sanad iyo laba laga gaadhayaan ma qabaano service delivery waxyaalahan isku dhalin contract administration financial management arrimaha u waaweyn hadda noo yaala ee transitionkii maadaama emergency phase-ka unaan ka soo baxnay hadda ay tahay in la galo kuwaasaa kow ka ah marka waan qirsanahay inay hooseeyaan arrimaha electric qoladan lightka triga iyo Soomaalida waxa ku yareeyay waa arrin aan ku jirno aan ka hadal maalin walba laakiin mid aan saxayn baa jirta federal institutions waxa laga shaqeeyaa luqadaha federaalka ka jira sida Amhariga oo kale hadda haddii lagu daro Oromiyo iyo Soomaali iyo sida aan propose gareynay xisbiga BP waan arki doonaa marka inaga laftigeenu de federal institutions iyo bunugta iyo waxan iyo luqadaha laga shaqeeyo inaan barano maxay noo diiday idan dalkii ka tirsanahay laba mentality inaan haddaad luqad barato maxay ku yeelaysaa marka inaanan luqadda baran laftigeedu inaanan dhib u arag federal institutionskii laba haddii la go'aamiyo inaan barano luqaddii iyo inaan af Soomaaliha lagu shaqeeyo labadaan wey waan niri labadiiba luqadda aan barano oo ardadii dadkii luqadda baranay waan soo ururinay inay ka faa'iideystaan dhinaca kale in Soomaali laga dhigo luqadaha lagu shaqeeyo federaalka waan ka howlgalay shanta luqadood hadda federaalka xisbiga BP uu rabo in dastuurka loo bedelaba dastuurka dadka qaarkii leeyahay maxaa loo bedelayaa waxaa loo bedelayaa kow waxaa ka mid ah in federal language-ka lagu daro Soomaali which means xafiiska uu ka shaqeynayo federaalka qofku Soomaali xaq u leeyahay Soomaali lagu turjumo in adeeg ku bixiyo adeegna ku helo marka waa dadaal socda with the generational task hawl ballaaran oo generation u baahan weeyaane mid laba sano baro ciidi ah oo dawlad muxuu ahaayay markaa uu caga dhiganaysa la oran karo ay ku fashilantay ama ku saxantay ma aha runtii too soon to say anything about that inaasan ku soo koobilaa su'aalaha kuwa kalena soo dhaweynaa barnaamijkuna waqtigiisina uu dhaafay aadna u dheeraaday inuu intaa kusoo koobo oo madaxweynuhuna 2 saacadood uu barnaamijku marayaa su'aalo badanna waad weydiiseen 30 su'aalood ka badan fursad waan jeclaa inaan siiyo laakiin waxaan jecelahay maadaama barnaamijkii ugu horreeyay uu yahay haddii cid aan ka tegay ay jiraan madaxweynaha uu ka yimid codsigaasi in dhowr qof aan siino haddii cid laga tegay oo su'aalo ka duwan kuwii hore ay hayaan waay hallay masaa idiin warmarin laakiin waxaad samaysaan haddii aad haysaan su'aalo kuwii hore ka disan iyo su'aalo aan u dhoweyn kuwii hore waad mahadsantiin waay xagga u dambaysaan siin waaye inanka adiga inanka sii eegaya xagga ka dambaysa kaarka taagay baan siin
waxaan ku dari lahaa dhinacan maandooriyaaga dhalinyarada heer hadda wuxuu marayaa maandooriyaagu uu gaadhay qofka dee aan hadda isticmaalin maandooriya inuu reebaadiye yahay oo kale uu reebaadiye caadi yahay haddaadan maanta aadan maandooriya isticmaalin marka ka dowlad ahaan maxay ka qabtaa dhalinyaro ahaanna dee maxaad ku caawin lahayd dhalinyaradan hadda maandooriyaagu aadka ugu sii batay ee nolosha aadka ugu sii dhacaya markaad jiga saa eegto jidkaad aragtaba ama 10 qof ama ka badan oo dee nolosha aad uga sii dhacay darkiisii marka ka dowlad ahaan maxay ka qabtaa السلام عليكم دمانتي ودي والسلامة سؤال ويديني مدحوينها waxay tahay waxaa jira child protection oo xafiisna uu furan yahay laakiin ciyaal dayacan baa jira maxay ahayd magaaladeena ciyaal dayacan baa jira ciyaalkaas oo wax protection aan ka helin xukuumadda oo street children ah oo darbi chief asaw taqaantaan kadib wax caawina xukuumaddu maxay ugu tala gashay caruurtaas mustaqbalkooda fog iyo midkooda dhow labadaba waan salaamay madaxweynaha madaxweynaha su'aashan weydiinaya waxa weeyaan madaxweyne si lala wada socdo deegaanka abaar aad u baan baa ka jirta xukuumaddaada maxaa uga qorshaysan biyo la'aanta iyo abaarta deegaanka guud ahaan ka jirta waad mahadsantihin su-aasheedu waxay la xidhiidhaa dhinaca jibriyada iyo finansiga dowladda lama weydiin magacaygu waa cabdiraxmaan shaafici su-aashaas waxay la xiriirtaa dowladdu inta hadda isbeddel ku dhacay tanaasul badan iyo dabac badan bay uga samaysay shacabka arrintaas shacabkii laakiin iyo duruuftoodii iyo sharciga isma waafaqsana marka dowladdu dadaalada ugu jirta sharciyada waddanka iyo dastuurada wax laga bedelo in sharciga jibriyada kastamka duruufta shacabka Soomaaliyeed loo waafajiyo maxaa uga qorshaysan imsaad halka ku tihiin od barateen hal qof aan ka siiya deedin hal qof ka sii nimada dhowrkii taagaya hal qof ka sii waxaa jirtay si loo xalliyo biyo yaraanta magaalada Jigjiga ka jirta dadaalo xukuumaddu ay gashay xafiiska biyaha iyo maamulka magaaladu ay ka wada hadleen muddo 6 bilood arrintan in lagu saxayo laakiin wali waxaan aragnaa Jigjiga waa magaalada kaliya ee xarun deegaameed ah ee main road ama wadada halbowlaha ihi biyuhu u biyool u yahay waa maxay caqabada hortaagan dadaalkii aad bilowdeen muddo 6 bilood in lagu soo afjaro aad iyo aad maasantiin marka hore waan salaamayaa madaxweynaha su'aashan qabaa maadaama uu su'aalooyin soo diyaarsaday ay badan yihiin oo sharcigu uu saamaxayn waxaan weydiinayaa 2 su'aalood su'aal kaliya leeyahay waxaan weydiinayaa xagga caafimaadka haddaan ka hadlo deegaanka dhan aynu leenahay waxaa ka jira referaalka mashiinka ICU ayaa ka jira referaalka wuxuu leeyahay 3 referaalka waxaa yaala 3 sariirood baahida loo qabo deegaankuna aad ayay u badan tahay marka loo eego deegaankeena hospitaalada deegaankeenu maalintii ugu yaraan waxay soo diraan 2 qof bay soo diraan hospitaalada deegaanku waana 3 sariirood waxa yaala xafiiska referaalka deegaanka marka seeba maaragtay waa mashiinka naqaska weeye oxygenka marka deegaanka dhan oo inta baaxidiisu dhan tahay miyuu ka fargarayn karaa 3 sariirood oo referaalka maaragtay taala weeyaan su'aasha labaad ee raacin waxa weeyaan xagga xulashada way ka dhantay walaalo mahadsan inantaasi magacaygu waa Muna Khaliif su'aashan qaba waxay tahay wadadii u dhaxaysay harta sheekh iyo qarbiba halkay ku dambeysay si barnaamij ay gabar leedahay inama qabta badanka barnaamij ay gabar leedahay ma la soo dhaweyn doonaa si gabar bay ku ficil qaadan kartaa oo la tartami kartaa oo dhixi kartaa inantan 9 bilood bay ku dhalatay waa la tartami kartaa laakiin inankan waxay isdhaxaysaa inankan awood buu ka wan yahay lama tartami kartid markaan waxaan rabnaa annagu haddaan gabdhaha dhalinyartana inaan annagu is hogaamino wiil inuu hogaamiyo ma rabno madaxweynaha fursadaydi siiyey 2 saacadood bay ahayd idinkuna aad baad hadashay su'aalo badan oo weydiisay imika 40 su'aalood baad maraysaan waayo bismillaah raxmaan raxiim arrinta maandooriyaha waa arrin laga xumaado way jirtaa qaybta ka saaran xukuumaddu waa in dee wixii maandooriya lagu arko la qabto oo sharciga la horgeeyo lala dagaalamo weeyaan qaybta guryaha ka soo bilaabmaysa waalidiinta iyo bulshada ka saaranna waa in dhaqankaasi inuu dhaqan xun yahay aynu ku soo aabino carruurta marka dee vulnerability fara badan baa iska jirto qoysas badan oo burbura baa jira dad fara badan oo dayaca baa jira marka horta markay bulshadu sii badataba ay sii ballaarataba magaalooyinku sii koraanba noloshani waxyaalaha urbanizationka ka yimaado oo la socdo oo nusqaana baa jira
tanaa ka mid a marka sidii waagii magaalooyinku 20 kun iyo 10 kun joogeen ay ahaan jireen ma ahaan doono waxyaalo maandooriyaal ka daran oo kale oo soo bixi doona jira oo bulshada nasiib darro ay tahay in la maareeyo marka taasay ka mid tahay marka arrinta maandooriyaasha xukuumaddu dagaal bay ku qaaday ilaa haddana waa wadnaa xabsiyada waxaa ka buuxa dadkii hawlaha lagu qabtay laakiin waxay u baahan tahay dadaal ka ballaaran ka xukuumadda oo shacabkii iyo inaan la kaashano haddii gaabis uu jiro xaggaas baraarujinta in kor loo qaado weeyaan xagga sharci geynta dhibaatooyinka kama jiraan laakiin xagga baraarujinta iyo ka hortagga in laga shaqeeyo weeye street children ama caruurta dayacan ee bannaanada jiifta waxba lagama qaban waa laga qabtay kuwa xariisan baa jira hadda oo maalin wataab laga soo daynaya TV-ga oo tiradoodu ilaa aan malayn kontonay inay gaarayso marka wixii magaalada jooga xafiiska arrimaha bulshada wixii magaalada joogay dhalinyaro fara badan oo anigu aan soo booqday baa jira oo maalinkii hore u tegey aad iyo aad looga naxayey maantana dhalinyaro qur-aankii baranaysa cuntadii haysata meel ku nool halkay ku nool yihiin macnaha iyana noqonin meel aad ugu raaxaysanayaan laakiin noloshooda aad uga fiican ayaa jira liiga haweenka xisbiga barwaaqo oo shalay toole raashin iyo cunto u geynayna waan arkayay marka way jiraan dadaalo la sameeyey kuwa la sii xoojiyo kor loo qaado baan u arkaynaa su'aasha abaar baan baa jirta waa run abaartaasi way jirtaa hukuumaddu way la tacaalaysaa ilaa iyo hadda biyo dhaaminta iyo raashinada iyo muxuu ahaayey xoolaha wixii loo baahnaa meelo badan baa la geeyey haddaba halkaa waxaan kusoo gaarnay waa dadaalka aan wadno laakiin haddii roobku uu di'i waayo toddobaadka soo socda kuwa ka dambeeya xaaladdu inay sii adkaato waa laga yaabaa diyaargaro aan samaynay wuu jiraa lacaga aan ururinay ganacsatada ka ururinay kuwa xisbigu ku baaqay kuwa mushaharada oo shaqaalahan ka jarnay iyo kuwa xukuumad ahaan aan qorshaynay intaba way jiraan marka inaan ka jawaabno oo meelaha ay ka jiraan aan tagno waa muhiim arrimaha abaaraha waxaa laakiin soo raacaya qaab dhaqankii bulshadeenu isbeddel baa ku imanaya marka dadkeenu wuxuu ahaa dad adkaysi badan oo abaaraha iyo yaqaana oo guurguuri u ahaan jiray oo la odhan jiray qofkan laga yaabo jijiga joogaa inuu godiba geeliisa xodiisa u kaxaysto ay dhici jirtay mala fofo wixii hadda ma jiraan xoolo dhaqato kooban oo saasay masaa way jiraan laakiin shacabkii caadiga ahaa more or less dad aag intay degaan halkaa in biyo lagu keenan rabay noqonayaan servicekii biyuhuna meelihii kama wada jiraan marka labadaa factor dadkii oo si xora dee u sheeganaya baahidoodii iyo dadkii oo deegaan noqday hadda oo dawladdii ku xidhan biyo in loo keena ay u baahan labadaasba way xoojiyeen nuglaanshaha dadku ay u nugul yihiin way korba u soo qaaday ama in abaaraha aad loo ogaado laakiin abaaraha way jiraan roobka oo da'ayaan ayaa ficnaan lahaa haddii roobku uuna diin dhibaato ballaaran baa soo socota hay-adihii waan u bandhignay wixii loo baahnaa qoraallo waan samaynay muddo bil ka hora waxaanu qornay apiil hay-adaha iyo dowladda federaalka aanu ka codsanayno baaq in la soo gaadho haddana waa wadnaa dadaal ilaa iyo hadda waxaan qabnaa inuu under control yahay oo meelaha biyaha la'aanta ay ka jiraan ilaa shalay laga bilaabo hawlgal laga bilaabay laakiin hadday xaaladdu sii adkaato oo roobku uu iman waayo I think wax ka ballaaran awooddeena inuu noqon doono aan u baaqi doono dowladda federaalka iyo kuwa kale inay si ka ballaaran sidii hadda ay noo caawinayaan ay noo soo gaaraan arrinta abaartu wax markaa la qarinaya ma aha waa abaar baa jirta kabasitiga xukuumadda o dhan waan isugu geynay inaan wax ka qabanno ilaa iyo haddana waxaan qabnaa in jawaabta aan ka bixinay ay tahay ta inay soo gaarsiiya halkaa ilaa iyo hadda jibriyada iyo finance shuruucda wax laga bedelo dabcan waa arrin muhiim in laga bedelo waxaa ugu horeeya waxaa weeye ganacsiga xadka waxa la yidhaha border trade oo dadku mobilityga ay ku ganacsan karaan in kor loo qaado 100 kilomitir xagga iyo xagganba dadku inay soo socdaan waxay rabaan inay geystaan aagaasna aan lagu xirin qorshayaal noocaasaa jira taasoo kale sharcigaas meel uu hadda marayo aan hubsan doonaa laakiin haddii aan wax laga bedelin dhib bay noqonaysaa marka way isku dhiban yihiin qaabka dadkeenu u nool yihiin iyo qaabka shuruucda kore u imanayaan qaab sir qaadanaya duruufaha jira maaha marka in la soo fajiyo waa qasab aan wadnaa arrintaa biyaha jijiga waa run magaalada kolka jiilaalka tahay ha u badnaato laakiin guud ahaan biyaha magaaladu kuma fila waxay sheegeen dadka khabiirada ku yihiin ugu yaraan 20,000 oo mitir cube oo biyo ay u baahan tahay magaaladu maalinkii laakiin ay hesho wax ka yar 7,000 waad garan kartaa 3 jibaar ayaa loo baahan yahay biyo kor loo qaado maamulkeedii wax baan ka bedelay baryahan oo hadda waxa lagu wareejiyay wakaaladda biyaha jijiga ilaa saaka update baan la soo diray shalay 12,000 marka lagu daro booyadihii ilaa 12,000 in la gaarsiiyay haddana lacag ilaa 100 milyan oo la helay inta dayactir lagu sameeyo yaa muhiima laakiin waxa ugu weyn waxa weeye magaalada biyo gali rasmi loo sameeyo barnaamij socdaa jira kaas sanadka dambe in la sii xoojiyo
qayb ahaan wax u ka tari doonaa laakiin in magaaladan biyo gelin ballaaran magaalooyinka kale ee deegaanada ka jira oo dhan badankooda magaalooyinka jiro u dhow federaalka dowladda federaalka gelisay badankooda marka annagu inaan sanadka dambe ama halkaa la kaashano ama annaguba aan waxaa kaloo jira barnaamijyo aan ku fikirayno ah inaan Chinese iyo qolyo kale u yeedhno oo magaalada biyo geliyaan oo lacagaha hadhow annagu xukuumad ahaan aaban qaab deyna ula galan oo laga fikiraya marka waa hawl socota laakiin way jirtaa biyo la'aanta magaalada in biyaha loo baahan yahay iyo waxa magaalada yaala ayna islahayn way jirtaa investmentiga loo baahan hadda kor aan lagu samayn weeyaan 10 sanadood intaasoo meelood biyo gelin baa la samayn intaasoo dhaan baa la samayn lahaa magaalada caasimadda ahayd lacag badan lama gelin magaaladiina way laba jibaarmaysaa way koraysaa marka in barnaamij ballaaran oo biyo gelin loo sameeyo magaalada way u baahan tahay intaa ka hor waxoogaa rafaadkaas uu iska jiraya baan qabaa laakiin waan dadaalaynaa sidii loo yareyn lahaa arrinta referaalka naguma fila waxaa tii 3 sarood baa ku filan ma huwa 3 sarood inay yihiin laakiin hadda isbitaal ka kaliya aan ahay magaalada mid baa hadda la furayaa xaafadaas hoose ableelaha isbitaal liida qaar baa waxa ka socda isbitaal primary ah meesha college laftigeeda waxa health center laga sameeyay isbitaallo kale oo agaarkana jira oo coverage area-ga in dadku meelahaas lagu daweeyo oo laga yareeyo culayska jiga imanaya lagu tala galay kuwaas markay dhaqan galaan still waxaan qabaa in magaalada jiga baaxadda ay leedahay iyo xarumaha caafimaadka ay leeyihiin ay kala yihiin kaafiya kala dheeri aad u kala badan yihiin marka haddii baahibaha laga hadlayaa sector aan baahi ka jirin ama biyo ha noqdo ama waxbarasho ha noqdo ama leyrka ha noqdo una ka jirin ma jiro marka baahidu aad bay u ballaaran tahay waa deegaan dib u dhacsan deegaan horumarsan maaha dalka Itoobiya ee lagu tilmaamo dalalka ugu dambeeya xagga dhaqaalaha ayuu ugu sii dambeeyaa deegaankani marka inaga laftigeenu dee baahiyaha markaan ka hadlayno realistic aan ka ahaano kuwaasi goormay dhamaanayaan we will see dadaalkeena ku xiran tahay laakiin baahi la'aan halkan qof kasta oo joogo ama qof kasta oo mas'uul noqdo halka fadhiya rulba baahi shacab inuu ka jawaabo qasab ay noqon doontaa for some time iyo waliba waxaan isleeyahay abadiyanba maadaama dadka baahidiisu isbedeli doonaan arrinta wadada Harta Sheekh iyo Qabr Bayax wadadaas lacagta lagu talagalay baa ya dadkii qandaraaslaha ahaa ay musuqeen dhibaata ka jirtay dib baa loo bilaabay hadda waxay ku jirtaa wadooyinka in laga shaqeeyo u baahan wadooyin fara badan oo ka tirsan deegaanka oo iyaguna in dib loo bilaabo u baahan bay ku jirtaa gabdhaha su'aasha gabadha ay tiri wiilashu inuu hogaamiyaan ma rabo maana aad u fahmin wiilashu iyo gabdhuhu inay is hogaamiyaan wada shaqeeyaan ma rabnaa inay kala madax banaanaan ma rabno anagu xafiisyada wiilashu inay hogaamiyaan ma doona xafiis gabdhuhu is hogaamiyaan ma rabnaa oo la tartamaynaa way ha waan soo dhaweynaynaa inay la tartamaan inaad idinku wiilashu hogaamisaan xafiisyada qaarkood qaarna idinka ay hogaamiyaan ayaan baan u qaatay waxay la xiriiraan su'aashii hore ee ku saabsanayd doorka dumarka ee siyaasaddu ilaa halkii la gaarsiinaya marka kor loo qaado way naga go'an tahay laakiin I think qaabka yar feministiga ah yar loo dhigayo wiilashu inay dhibta keenaan inta laga daayo nidaamku waa lagu xisaabtamo dawladda dadka joogay mas'uuliyiintii arrintan ma ay soo dhaweeyaan in la yiraahdo laakiin feminism iyo nagu bilaabmin waan wareereynaa society-geenu weli arrintaa uma diyaar uma aha wuu fiican yahay wuu khaldan yahay malihi waxaa lihiisa saxda positive aspect buu leeyahay in la haylaad gareeyo baahiyaha dumarka in la haylaad gareeyo abuse-ka haweenka haysta oo ballaaran ka dhaqaale ka bulsho ka siyaasadeed waa sax weeyaan si aggressive laakiin aan loo soo dhigin sababta waxaan u baahanahay bulsho is wadata oo wada socota oo wada dhaqantaan u baahanahay marka intaasaan ku soo koobi lahaa su'aalihi madaxweynuhu aad buu mahadsan yahay waa barnaamijkii ugu horreeyey ee misan isku soo horfadhiisano madaxweynuhu idinkoo xora oo su'aalihi nuxuriyiin aad weydiisaan aad baynu uga mahadnaqaynaa waa barbilow bardhamaad maaha insha allah maadaama barbilow yahay culayska iyo waqtiga intaba waad u samraysaan su'aalo fiican oo waxtar loo bulshadiina wax u talana waad weydiiseen oo nolosha khusuusigaa la xidhiidha insha allah waad daawan doontaan aad iyo aad baan madaxweynaha iyo tiimkiisa iyo kooxda loogu mahadnaqayaa MNTV waanu soo dhaweynaa deegaankana ka mid baanu insha allah aad baynu ku mahadnaqayaa dhammaan farsamo yaqaanada MNTV iyo SRTV iyo dhalinyarada kale nala shaqaysay aad bay u mahadsan yihiin jigaay gudahaaga kol inaa yara gaadhoon guraha dunta dheerle qalab nool ku dalxiiso naftu way ugu hayseen guulo mahadaadhe naftu way ugu hayseen